وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد إن سوى الكين شيء وحين ما أنت أرى يكون دونا فكرة دعاء سيدابا إنه هرماري كرنا maxay haddaynu qaadanaabay nolosha suurtagal ka tahay inaynu hore u marro waxaad moodaa su-aashaasi inay ka horrayso sharax la sharxo horumarku muxuu yahay goormaa la odhan karaa ummaddaasi way horumartay maxaa lagu qiyaasi karaa waxa horumarka la idhaahdo goormaynu odhan karnaa ummaddu way dib dhacdo dib bay u socotay goormaynu se odhan karnaa hore ayay u socotay xaqiiqadu waxay tahay erayadaasi iyo sida loo sharxayo caalamka afkaar badan oo kala gedisan baa ka jirta matalan labada eraya reer galbeedku inta badan isticmaalaan oo ah culture iyo civilization sida badanna dadyowga ama faransiisku dadku hogaaminayay inta badan iyagu ay isticmaalaan erayga la yidhaahdo civilization qolada uu jarmalku hogaaminayay xadaaradooduna ay isticmaalaan erayga la yidhaahdo culture labada erayna aad moodo luqaadka reer yurubku ay ku hadlaan oo dhan inay isku qasan tahay xataa marka la eego scientifically siday u sharxaan matalan culamada anthropologygu markay ka warramayaan civilization dr rushdi fakar wuxuu leeyahay 150 sharax baa jira oo eraygaasi lagu sharxo ama 150 definition oo kala gedisan ayuu leeyahay erayga kani markay sharxayaan afka carbeed qolada isticmaasha waxay isticmaalaan erayo badan oo isku macno dhadhow qaarna isku macno ka dhigaan qaarna kala gediyaan waxaa ka mid ah erayga la yidhaahdo alxadaara waxaa ka mid ah erayga la yidhaahdo althaqaafa waxaa ka mid ah erayga la yidhaahdo almadaniya waxaa ka mid ah erayga la yidhaahdo alcumraan afarta erayba waxaad moodaa dadyow kala gedisan ama qoraallo kala gedisan in lagaga warramo mararka qaarkood iyagoo isku macno qura tilmaamaya horumarku waxa la yidhaahdo waxaan leenahay xaqiiqadiisa dhabta ahi waxay tahay bini aadamka ayaa miqyaas u ah adawaadku ama qalabku miqyaasu ma aha yacni sidaa loo kala daaradhaadheeriyey ama loo kala industrigu u kala badan yahay bini aadamku uma kalo horumarsana baa la isku wada raacsan yahay afkaarta kala gedisan oo dhan markaad isku darto eraygaasi mujmac baa lagu yidhi waxay leeyihiin waxaa lagu kala horumarsan yahay oo keliya sida bini aadamku ama qiyamka yacni waxa qofka bini aadamkaa lagu qiimeeyo saa loogu kala horumarsan yahay tusaale ahaan waxay leeyihiin mar kasta oo ay kobocdo qiyamka insaaniga ahi matalan mar kastoo ay kobocdo caqaa'iday dadku rumaysan yihiin akhlaaqda iyo dhaqanka ay leeyihiin cadaaladda iyo qaabka ay u neelyihiin bini aadamka iyo kala sarrayn la'aanshiyihiisu mar kastoo waxaasi ay kobcaanba waxa la odhan karaa bay leeyihiin waxaa horu maray bini aadamtinimadii taa macnaheedu waxa weeyaan hadday taasi dib u dhacdo walow bini aadamku daaro dhaadheerna ha haysto xoog badanna ha leeyahay nuclear weaponna ha haystee ma horumarin baa la leeyahay waxaan jeclahay mawduuca isaga inaan si gaara ama maalin gaara uga warramo laakiin waxaan uga gudbayaa maanta halka dadku ay u wada hanqal taagayaan oo ah horumarka khaasatanka reer galbeed inoo sheeganaya ama maanta dunida uu ku hogaaminayo sidee lagu gaadhayaa maxaase lagu gaadhayaa haddaynu nidhaahno taxriifkeenna hore ku noqonno waxay leeyihiin labada qayboodba isku dara in xagga bini aadamtinimada laga horu maro iyo bini aadamku wuxuu adeegsanayaa inay horu maraan yacni wasaa'ishii uu adeegsanayay lafteedu in hore loo mariyo haddii bay yidhaahdaan ummadi ay xagga qalabkiiyo xoogga ka horu marto asaanay ka horu marin dhanka kale aynu sheegayno ama ileenay cultureka iyo thaqaafadday ummaddaasi rumaysan tahay ay leeyihiin inxiraafaad tiro badan iyo weecweecansho tiro badan waxay leeyihiin ummaddaa dhaqankeedu waxa ka muuqda shay lagu yaqaano waxaa ka mida bay leeyihiin alkibru waalguruur way ummad isla weynaataa
waxay jeceshay dunidaad ama dadka inta kale inay saytarayso haddii weeyaan bay yidhaahdeen waxay ku horumartay uu technology qura yahay yacni technology iyo dhaqaaliya qaabkaasi maadiga ah hadduu yahay waxay ku horumartay calaamaadka ka caanka ee taariikhda bini aadamka oo dhan marka la darso ka muuqda waxaa ka mida bay yidhahdaan inay jecel yihiin ummadaha kale inay saytareeyaan ama inay u sheegtaan inay ka xoog badan yihiin oo ay xoogga ku muquuniyaan taasi waa mas'alo taariikhdu dhigayso waxay kaloo taariikhdu qoraysaa bay leeyihin ummadda had iyo goor dib uga dhacda horumarkaasi technology-ga iyo waxyaabahaasi ku saabsan waxa ku dhaca bay yidhaahdeen inferiority complex ama cuqdad bay qaadaan ay moodaan in wax kasta lagaga fiican yahay sidaa dhankaa loogu horumaray in wax kastoo kale loogaga fiican yahay dabeetana waxay bilaabaan inay taqliid ku sameeyaan ama se ku daydaan kuwii ka horreeyey haddaynu labada qayboodba tusaale caadiya ka bixinno matalan ilaahay qur-aankiisa wuxuu inooga warramayaa xadaarada hore burburay xadaaradaha hore burburay waxaa ka mida bilmatal xadaaradii reer caad ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa nimankaasi sifa ay leeyihiin oo ah inay ka horumareen wasaa'ilkii bini aadamku waagaasi adeegsanayay laakiin dhanka kale ay aad dib ugu dhaceen markaasaa ilaahay wuxuu ku leeyahay atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbasuun watattakhiduuna masaanica lacallakum takhluduun waidaa batashtum batashtum jabbaariin waxaa ilaahay ku tilmaamayaa matalan aayaddaasi oo kale meel walba ma waxaa ka dhisaysaan calaamado yacni aa ku cayaaraysaan yacni wax la isugu faanfaano waxyaabaa jira bini aadamku aanu u baahnayn laakiin isugu faanfaan daraaddii un loo dhiso skyscrabisku wax kale maaha waa isugu faanfaanka dunidun bay ka tirsan yihin ilaahay wuxuu leeyahy ma isugu faanfaan baa wax u dhisataan oo ma masaanic iyo waxbaa samaysanaysaan sidii qaar waaraya aad tihiin markaasaa la yidhi waidaa batashtum jabbaariin haddaad dadka kala qabataanna ma si jabbaarnimo ah axmaqnimo ah baad dadka u laysaanoo u qabataan yacni waa sifaadka ka muuqda baa la leeyahy ummad kasta oo maadada ka horu martaa bini aadamka inta kale kabta hoostiisay gelisaa waa wax waaqaca maanta nololeeda dunida tani uu ku taagan yahay aad ka arki karto ummadaha la tilmaamaya maanta inay technology-ga horu mareen waa kaasoo maraykan maanta dunida waa ka buulis waxaanu isagu oo dhan hala sameeya ciddii samaysaa waa in madaxa lagu dhuftaa waxa kaloo hor taalla iyana ta kale oo ah dadka taa dib ugu dhaca waxay noqdaan dad had iyo goor miskiinnimadu ka muuqato oo mooda wax kastoo dadka kale ka soo baxaaba inay fiican yihiin tusaale ahaan haddaynu taariikhta hore dib ugu noqonno matalan waabaa jirtay muslimku uu hogaaminayay technology-ga dunida ama iyaga ay fadhiiday cilmiga iyo aqoonta waxa loo yaqaano dunida kale marka ay daba socotay yurub waagaa dhaqankeedu siduu ahaa yurubta kale ka kale ee baabawaadka gurigooda waxaa lagu xidhan jiray dhar balballaadhan oo fadfaada oo erayo af carabi ay ku qorantay waa halkaynu maanta ka isticmaalno shaadhadh ama saraawiil ama koodhadh ay ku qorantay jackson iyo jee iyo waxay dhabarka kaga sawirayeen ama magacyo waagaasi waxaa la isticmaali jiray kuwaasoo ay ku qorantahay af carabi iyo waxaas ninku markuu rabo inuu la yidhaahdo waa nin khabiira oo bariga ka yimi waagaa cilmigu beriguu jiray hadda iminka la yidhahdo waa nin khabiiro galbeedka inooga yimi si uu u muujiyo inuu ninku yahay nin khabiira oo bariga ka yimi waxay ahayd inuu gadhweyn la baxo markuu gadhweyn la baxo yacni waxa weeyaan dunidii cilmiga lagu hayuu ka yimi oo ninkana waa nin khabiirnimadu ay ka muuqato sidoo kale waxaynu arki karnaa beddelkeedu iminka inuu tii yahay dunida saddexaad dadka lagu tilmaama waxaad moodaa wax kasta oo galbeedka ka yimaada in maanta loo arko inay qurux badantoo lagaga daydo sababtuna waxay tahay cuqdadaa la qabo daraaddeed waxaan leenahay laakiin ummadda hadday kulanto labaduba yacni hadday ummaddu haqaafa ahaan caqiide iyo culjarka hadday ka horu maraan maadada iyo technology-ga dunida yaallana ay ka horu maraan waa nooc gaara kuwaas in yar baanay taariikhda caalamka soo mareen matalan qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa nebiyullaahi sulaymaan boqortooyo aad u ballaadhan buu aabihii ka dhaxlay isna boqortooyo aad u weyn buu yeeshay markaas ilaahay qur-aankiisa wuxuu inoogu tilmaamayaa sulaymaan wa warita sulaymaanu daawuud wa qaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantiqa tayr wa uutiinaa min kulli shay ina hada lahuwa alfadlu almubiin وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس
والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. آيات كسي إلهي وحينا قلت المامية نبي الله سليمان بغطويا أدو بلارين وقعنتكو هايستي أقوان الله برينا إنا يتربضني إنو حد أسكرتي سايكمي هايين بن آدم كتشنكا ينسيقا نوع ولبا إنو كتشري حتى إنو شمبرها يقاني قاب لولا هدلو أما لولا نقمي كرو dabeetana maalin maalmaha ka mida inuu soo xaadiriyey ciidamadiisii oo dhan oo jin iyo insi iyo shimbir iyo wax walba leh wuxuu soo maray jidka isagoo maraya ilaahay wuxuu tilmaamayaa inay dareemeen bahashan namlada la yidhaha quraanjaa hadashay quraanjadu waa qaab boqortooyaa bay u dhaqantaa tii meesha ka madaxda ahayd baa waxay la hadashay qoladii kale waxay tidhi sulaymaan iyo ciidankiisu yaa idin jiidhin iyagoo aan waxba ogeyne guryihiinna ka gala نبي الله سليمان إلهي وحد المامين وحنو دنف يقاني سيدا الدرادين أي إلهي وحليه فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني وحي إلهي سبحانه وتعالى كنت المامية الشيء حبتي قرانشة هيد قرانشة كلا كل هذا الشيء dabeetana ilaahay intuu baryay buu yidhi ilaahayow waxaan kaa baryaynaa ilaahu waxaan kaa baryayaa inaad igu kaalmayso shukrinaqa ama mahadnaqa nicmada tan aad isiisay. yacni waa markay kulanto maxay thaqaafo horumarsan iyo taqadumka maadiga oo isna horumarsan. haddaan arrintaasi iska soo dhaafo waxaynu leenahay ummadda maynagaba dhaaftaan waxaan tilmaami karnaa ummaddu haddii aynu odhan karno waa horumarka rasmiga ah laakiin waxaan jeclahay masaladaasi oo dhan inaan kaga warramo mawduuca kale aan tilmaamay inaan mar kale haddii alla inoo qadaro inaynu ka warrami doono. waxaan leenahay dunidaynu maanta joogno iyadoo inagu aynu nahay caalamu taalidka qolada lagu sheegay taalidkuna malaha waa marka laysu erayada laysu asturaye caalamka dib u dhacay markaynu inagu nahay iyana ay yihiin caalamka horumaray horumarkuna uu yahay kaa technology-ga ah iyagu waxaynugula hadlaan afka uu ku jiro atakabur walguruur afka isla weynida ah lagu yaqaan dadka ku horumaray ayay iyagu inugula hadlaan inana waxaynu ku daba soconnaa aragtida in wax walba la yiragaga fiicayo kombalagaskaasaynu qabnaa. dabeetana waxayna yidhaahdaan haddaad doonaysaan inaad horumartaan qaata nidaamkayaga iyo qaabka aanu u dhaqmo. kuwa shuuciyiintii waxayna odhan jireen shuuciyadda qaata hore u maraysaan qolada tani waxayna yidhahdaan dimuqraadiyadda qaata hore u maraysaan. waxa kaloo meesha iska yaalla dawladaha saddexaad yari marka ay fakerayaan kuma fakeraan baynu odhan karnaa ama dadkooda waxay ku horumari lahaayeen waxa inta badan lagu fakeraa sidee bay inooga raalli noqonayaan kuwa horumaray oo ay gacanta inoo qabanayaan. yacni waxa loo fakeraa qaabkii wax loo baryi lahaa. ficlanna dawladdu dadkunbay ka mid tahay waxaad dareemi kartaa dadka soomaaliyeedba maanta haddaan ka warranno inaan u odhan karo war haddaad calanka laa ilaha illaa ku qabto dee nimanku waxba ku siin maayaan. idan wuxuu awalul amri uu diyaarinayaa sidii lagu horumari lahaa wuxuu ka bilaabayaa qaabku wuxu dawarsan lahaa ama qaabkuu gacan bini aadam oo kale waxuu ka helo ugu horumari lahaa. markaasuu leeyahay haddaynu waxaan samayno qoladani raalli inaga noqon mayso horumari mayno haddaynu sidaa ka yeelana kuwan baa cadhoonaya markaa cadhada qolada kalea la yska ilaalinaya. waa cuqdada ka mida yacni inugu jirta. baryowgeenna qaarkoodna waaba dhiirradaanoo waxay idhaahdaan waxay horumartay yurub markay diinta ka baxday waana dhab waa eray dhaba. yacni yurub waxay horumartay markii boobka loo diiday xukunku inuu gacantiisa gala ama se laga saaray horu ugu jirin laakiin markii laga saaray bay horumartay. dabeetaynana waxayna yidhaahdaan qoladeenna reer galbeedka waxaynoogu baratay haddaynu doonayno inaynu horumarno waa inaynu kala saarnaa diinta iyo dawladda
waynaynu diinta masaajidkeeda iyo xaggaa qabadsiinaa horumarka waxa lagu gaadhayaa qaabkay qoladan mareen ee waddaday mareen aan ka daba raacno laakiin dhab ma tahay diintu se waa tee diintee laga baxay diinteese iyagu ina leeyihin ka baxa horumarteeni intaana su-aashaa ka jawaabin waxaan leenahay waxaa jirta ummadda dunida maanta ku nool galbeedku wuu horu maray kadib markii uu christianitigii uu haystay iskaga tegay inuu maamulka galo bariguna wuu horu maray markuu qaatay mabda' shuuciyad la yidhaahdo yacni marka technologyga la eego dawa nimankaa cirka iyo dayaxayana waxu dirayow waxaynu kaloo odhan karnaa waxaa jirta dawlado kaloo aan labadan fikradood midna raacsiisnayn bal rumaysan rag iyaga ka midii inay ilaaha u yihiin oo haddana horu maray yacni waxay dunida ku taqaaniin waddan jabaan la yidhaahdo yaabaan diinta laga haysta ma garanayo saa u taqaaniin yaabaan diinta laga haysta waxa weeyaan boqorka 1950gii baa laga saxaxay inuu ilaahnimada ka daadego yacni 1950gii baa lagu qasbay inuu sayngareeyo inaanu ilaah ahayn waxaan leenahay ummadda jabaan dagaalkii labaad ee dunida waxay ka qayb gashay iyadoo gacanta sare lahayd iyadoo rumaysan boqorkeedu inuu ilaaheedayay diinta caynkaasi iyadoo rumaysan ayay horu martay waxaynu odhan karnaa markaasi horumarku haddii kii dimuqraadiyadda qaatay uu technologigii dunida wax ka helay kii shuuciyadda qaatayna wax ka helay kii labada midna aan qaadanee boqorkiisa ilaaha ka dhigayna wax ka helay waynay jiraan meesha tan qawaaniin haabit ah seertan lows qofku markuu qaato uu horu marayo iyadoo aan loo eegin waxa uu rumaysan yahay haddaan erayga si kale u tilmaamo waxaan leeyahay waxaa jira horumarkan technologyga ee dunida yaalla ama horumarka maadiga aan iskuba daro qaybtiisa nidaamka ku saabsan ama administrationka iyo waxaa ku saabsan iyo qaybtiisan kale ee wax soo saar ku saabsanba waxaan leenahay waxaa jirta qaanuun xukuma oo ciddii qaadataa wuxuu doona ha rumaysnaadee uu horu maro ciddii ka tagtaana ay dib u dhacdo kaasi maaha kuwan anigu ka warramayo laakiin waa mid dunidoo dhamm isku waafaqsantay waxay idhahdaan ummadi waxa ay haysataa ama ra'sumaalka ummaddu ay leedahay waa 3 shay waa dhulka iyo dadka iyo waqtiga ay nooshahay ummadi waxay haysataa waa 3daa shay waa dhulka ay ku nooshahay waqtiga ay nooshahay iyo dadka ay haysato si kale haddaan u tilmaamo waxay leeyihiin 5 shay haddii la helo waa qasab ummaddaasi inay horu marto 5taa shay ummad kasta oo qaadataa iyadoo aan cidna ku tiirsanin bay horu mari kartaa maxay tahay 5ta tani waxay leeyihiin haddii ummadi bay yidhaahdeen dhulkeeda ay istiqlaal kaamila ku samayso yacni dhulkeeda hadday ka faa'iidaysato waxa gudihiisa ku jira iyo waxa dushiisa saaranba ummad kasta oo tijaabisa dhulkeeda inay ka faa'iidaysato waxa dul saaran iyo waxa gudihiisa ku jira ama baddiisa iyo barrigiisa iyo gudihiisaba ummad kastoo tijaabisa inay ka faa'iidaysataa waxay heshay qaanuunkii koowaad ee horumarka bay yidhaahdeen nuqdada labaad waxay yidhaahdeen ummad kasta oo waqtigeeda ka faa'iidaysata ama timekeeduu yahay programming oo waqtigeeda qaybsato waxay qaban lahayd ku qaybsata waxay heshay bay yidhaahdaan qaanuunka labaad ee horumarka ka saddexaad ummad kasta oo tijaabisa bay yidhaahdeen inay soo saarto ikhtisaasaadka ama specialistiska ay u baahan tahay cilmiga ama aqoonta ay u baahan tahay say iyadu isugu filaan lahayd ummad kasta oo tijaabisa sidii ay u heli lahayd aqoon-yahanadeeda oo ku filan waxay heshay bay yidhaahdaan qaanuunkii saddexaad ee horumarka ummad kasta bay yidhaahdeen oo haysata nidaam taagan
nidaam mustaqira taagan nidaamka taagan maxaa looga jeedaa nidaamka inqilaabaadka ama marka shalayta midiinta kursiga xagga u jeediyay ka dambe markuu yimaado xagga kale u jeediyo weligeed laguma horumaro ummad kastoo nidaam taagan haysata walow nidaamkaasi bay yidhaahdaan xataa ha xumaadane naaziyiintii maanta dunida waa wada caydaa hitlerna waxaa la yidhahaa ninka nidaam xumimo soo marin laakiin 6 sannadood buu Jarmal wuxuu ku geeyey inay isku dayaan dunida inay mar labaad qabsadaan isagoo marka hore ku jiray maxay mucaahadatu Versailles iyadoo laga saxeexay ayuu tinsigii siyaaris wuxuu ku gaarsiiyay haddana inuu isku dayaba dunida inuu mar labaad qabsado waxay leeyihiin markaasi nidaamku xataa haba adkaadane waa inuu mustaqiriyay mustaqirku waa maxay yacni qaabku u socday waa inuu u socdaa hawl fulintiisa nololeed oo dhami sidii loogu talagalay waa inay u socotaa inuu joogaa ka shanaad waxay dhahdaan ummaddaasi waa inay leedahay thaqaafa ama culture dhaqan ogol ashyaadaynu soo sheegnay inay hore u socon karaan maxay taa uga jeedaa waxay leeyihin bilmatal thaqaafaadka qaarkood bay yidhaahdeen in laga gaaloobo mooyaane laguma horumari karo aan laba tusaale idin siiyo waxay leeyihin matalan athaqaafa alhinduusiya hindida nimanka la yidhahda hindus waxa la yidhahdaa bay aaminsan yihin suurtagal ma aha bay yidhaahdeen ummadda fikraddaasi rumaysan ee rabta inay waaqaca nololeed ku dabaqdaa inay horumarto hal tusaale oo quraa kuugu filan bay yidhahdeen tusaale ahaan matalan ummaddaa jiirku waa mamnuuc in la dila bay yidhahdeen yacni fii thaqaafatihim aw fii diinihim jiirka in la laaya waa mamnuuc ummadi hadday jiirka daasato qura bay yidhahdaan kama suurtagal ah inay horumarto yacni jiirku waa wax hore isu dhali og dhibaato badan beerahan iyo waxaan la beeriyo waxaan oo dhan madaxa u roga waxay dhaaheen jiirkoo la sii daayaa wuxuu ku filan yahay horumarka ummaddu leedoo dhan inuu madaxa u rogo haddaan si kale u tilmaamo waxaanad moodaa yacni xadiidkii nebigu inuu tilmaamaya shantuu nebigu lahaa meel labaan kusii dayn inuu jiirku ka mid ahaa laakiin aan xagga kale uga sii tallaabo tusaale labaad bay bixiyaana waxay dhahdaan athaqaafa annasraaniya christianitygu medieval periodkii siduu ahaa haddii lagu wada bay leeyihiin horumarku isna suurtagal ma ahayn yacni in laga gaaloobo inuu maamulka qabto aragtida christianityga in wax lagu maamulo in laga tagaa waxay ahayd bay leeyihiin mid u faa'iidaa in bini aadamku horumaro haddiise la haysan lahaa bay yidhaahdeen lama horumari lahayn tusaale ahaan bay yidhaahdeen aragtidaasi waagaa waxay qabtay guurka waxa loo yaqaanaa inuu wax xun yahay rijsi inuu yahay yacni ninka guursaday iyo ninkaan guursaday inuu fiican yahay lidaalika baa goobabku ma guursadaan saa daraaddeed waxay yidhahdeen haddii la raaco bay yidhahdeen fikraddaasi oo ah inuu qofku ka dheeraado dee in bulshadii bini aadam ay isdhasho ay timaado waxay noqon lahayd bay leeyiin qarni qura inay ummadoo dhammi ku madhato ama si kale haddaan u tilmaamo waxay leeyihiin haddii thaqaafadii medieval periodka ay rumaysnaayeen nimanka kristankii la sii dayn lahaa maanta waxaa dhici lahayd qof waxgarada oo galbeedka joogaa inaanu jirin waayo aragtidooda waxay ka hor jeeday aragtidii cilmiga ahayd ee markaa dunida taallay sidaa daraaddeed bay waxay ku xukumeen waa kuwii maxkamadda samaystay dabeetana waxay xukumeen in nimankaa culammada ee fikradda meesha taalle fikrad ka gedisan la timaada in lagu qaado dil aan dhiiggiisu dhulka u dhicin dil aan dhiiggiisu dhulka u dhicin maxkamadaha qaadi jiray waxay xukumi jireen laba midu qofka in la dilo isagoo nool taa macnaheedu waxa weeyaan in la gubo dhiig kama imanaya dee haddii la gubo ka labaadna wuxuu ahaa in lagu xidho jawaano ciid iyo wax ama dhagax weyn dabeetana badda lagu rido iyona dhiig lama arkayo marka nimanka saynisyahanada waxa lagu xukumi jiray in dil aan dhiiggiisu dhulka u dhicin waa taariikhda laydinku dhigaa boroono iyo in la gubay galiilo in la xidhay aakhirkii xabsiga in uu kaga soo baxay markuu yidhi waan ka noqday fikraddii hore dhul baa wareega buu yidhi intaas baabaa xabsiga ugu filay iyadoo fikradaha in badan loo eedaynayey in lalahaa reer barigay kala yimaadeen saynu iminka u nidhaana ninkani gaalnimada galbeedku kala yimid ayaa waxay odhan jireen iyaguna xagga ayaa barigay naga soo gashay fikradaha gaalnimada ee nimankan ay wadaan waxay leenahay markaas waxay kaliftay in ninka reer galbeed imaa inuu qaato fikradda diintiisu sheegayso iyo inuu qaato waxa saynisku sheegayo oo uu sayniskiisa iska raaco dabeetana ka gaaloobo tusaale kale aan idin siiya matalan
zandani caalimka la yidhaahda wuxuu leeyahay waxaan tegay maraykanka dabeetana waxaan tegay buu yidhi machad weyn ama meel cilmi baadhista lagu sameeyo maraykanka macadkaasi waa macad lilirsaad yani waxaan cirka iyo waxaan ku saabsan yani hawada isbedelkeeda iyo dayaxgacmeedadan iyo waxaan la dirayo ayuu darsaa 750 jaamacadood ayaa markaa cilmi baadhista ku sameeya oo maraykanka ku leeyahay ninka macadka haysta markaa buu u tegay zandani isagoo raba inuu su'aalo weydiiyo ninka macadka haysta wuxuu ka tirsan yahay culimada qaybta loo yaqaano al-adriya qolada tiraahda waxba ma ogin xagaad ka timi ma ogi xagaad u socotaa ma ogi maxaad rumaysantay ma ogi yani ma ogi jawaab buu waayo wax kasta wuxuu kaga baxayaa ma ogi waa fikra yani dadaamisan yihiin waxaan ku yidhi su'aalo badan buu weydiiyey ama niqaash badan bay galeen laakiin waxaan jeclun anigu nuqdad qura inaan ka tilmaamo nuqdadaasi waxay tahay maxaad u qaadan weyday christianity-ga diinta waddankiinu haysta maxaad ku diiday wuxuu igu yidhi buu yidhi mar rabo cilmigayga inaan uga 15 sano horteed baan sidhi buu yidhi christianity-ga qaado dabeetana waxaan tegay buu yidhi kiniisadda markaan tegayna biyaa lay keenay biyaha cab baa laygu yidhi waana dhiiggii masiixa bay igu yidhaahdeen buu yidhi damul masiix weeyaana cab waxaan ku yidhi buu yidhi dee kani waana dhiig maahe waa biyihiiye mala waa ramzi yani calaamad bay ka yihiin miyaa damul masiixa maya waxaa la yidhi waa caynuha iyagaa laftiisii weeyaan dhiiggii masiixa lafteedii weeyaane cab oo adigoo saa rumaysan ku cab waa meesha aniga biyo dhiiggii ciise laygu sheegaya buu yidhi waxba cabbi maayana kala kaxeeya uu iska noqday yacni waxaan uga jeedaa waxay leeyihiin haddii thaqaafadda tani siday ahayd lagu sii dayn lahaa ma suurtagal ahayn in horumarkan yurub ay gaadho idan xaq bay u lahaayeen bay leeyihiin inay ka tagaan inkastoo gaalnimo aanay xaq u lahayn iyo alla dafir waxaan leenahay marka 5 qodob ciddii laga helo qodobka koowaad oo sheegaya dhulka in laga faa'iidaysto dushiisa iyo hoostiisaba wixii saaran qodobka labaad oo sheegaya waqtiga la haysta in laga faa'iidaysto oo yani waqtigu aan innaba lumin qodobka saddexaad oo sheegaya bay leeyihin inuu noqdo ikhtisaasaadkii ama wixii aqoomihii loo baahnaayo dhan inay ummaddani tijaabinayso inay kobciso ama se dhaliso qodobka afraad oo sheegaya inuu nidaamka meesha yaallaa mustaqriya ama mid degan uu yahay ka shanaad oo sheegaya thaqaafada ama biliifka ama cultureka ay dadkani haystaan inuu yahay mid ogol inay aqoontani hore u socoto shantaaba idhaahdaan ciddii laga helo dunida halkay doontaba ha ka deganaanaatee waxaa qasaba inay horu marto su-aasha isweydiinta le waxay tahay walaaladeenii lahaa diintiyo ha la kala saaro dawladda ama se reer galbeed siduu u gaaloobay ha loo gaaloobo taasaa la qaadanayaa ama se qoladeena le shuuciyadda ha la qaato iyadaa lagu horu maraayo ama qoladeena le dimuquraadiyadda ha la qaato waa lagu horu maraayo su-aasha isweydiinta le waxay tahay haddii aynu nidhi taqadumka madaniga ahi wuxuu leeyahay qawaacid sugan oo ciddii qaadata ay horu marayso ciddii ka tagtaana ay dib u dhacayso aan isweydiinno shanta tan ma ogoshay diinta aynu rumaysannahay mise ma ogola haddii laga waayo xaq bay u leeyihin inay yidhaahdaan ha laga tago horu mari maynee haddii se lagu hayo oo shantaba ay tilmaamayso xillina xaquma laha doodaasi inay keenaan waayo laba mid unbaa haysata inaanay de waxa lagu horumarayaba garanayninoo qolo unan ku dayanna inay leeyihin oo inferiority complegaskaynu sheegayna inay qabaan iyo inaanay diinta aqoon u lahayn waa labadaa midu ama tan horumarkan ay sheegayaan baanay garanaynin wuxuu yahay ama se jahli wuxuu ka haystaa diinta islaamiga oo waxay moodayaan tii qoladani ka gaalowdo kale inay la mid tahay oo haddaad dee ka dhigto tii qoladani ma diintooda ka celisay waxaana markay ka tageen bay iyaba horu mareen eenana aan ka tagna markaasaynu horu maraynaa waxaad barbar dhigaysaabaa qaldan waxaan markaa jeclahay inaan ka warramo shantan shay ee lagu horu marayo iyo bal diinta tani waxay ka qabto waxaan markaasi rabaa oo leenahay shantaa cidda qaadataa walow haba xumaatee nidaamkii naaziga ahaa ee dunida tan soo maray shantan shay buu qaatay dabeetana hitler isagoo nidaam aad u fool xun waday ayuu ka baxay ballankii laga qaaday ee farsay lagaga qaaday
dabeetana uu mar labaad noqday nin isku daya dunida inuu gacanta sare yeesho. yaabaan dagaalkii labaad ee dunida waa la jebiyey waana la baabi'iyey wax dul taagan loogama tegin 25 sano in ka yar ayay ku hogaamisay mar labaad dunida aqoonta iyo technology-ga la tilmaamayo. Germany dagaalkii labaad ee dunida dhulka lala simay wax looga tagay haba yaraatee ma jirto. muddo yar oo aad u yar ama aan odhan karno waxay ka yarayd intay Soomaalidu xornimada haysatay ayay mar labaad dunida ku hogaamisay iyagoo rumaysan Germany qodobadan inta la qaato bay la xad baa la gaaray la yiraahdo qof kasto Germany waa inuu shaqeeyo 10 saacadood 8 saacadood mushaharkeed buu leeyahay 2 saacadoodna waxay dhahay waa libinaya Almaaniya dhismaha si dib loogu dhisi lahaa Almaaniya ba 2 saacadood qof waliba u shaqeynaya. waxay leenahay markaas haddii Germany ay mar labaad soo kacday sababtan daraadeed awgeed oo yaabaan ay mar labaad soo kacday oo kuwa horumaraya inta ku horumareen war mas'aladu waa qawaaniin go'aan oo la qaatay aan qawaaniinta laftooda darisno oo isla eegna bal ma haysanaa mise ma haysano. waxaan u malaynayaa inay gaadhay waqtigii maqribka aan isu soo tukanno. على قد ما شاء الله ما شاء الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. haddaynu ka wadno halkii aynoogu taagnay waxaynu taagnayn inagoo tilmaamnay in horumarka bini aadamku uu ku xidhan yahay qawaaniin go'an oo ciddii qaadataana ay horu marto ciddii ka tagtaana ay dib u dhacdo. sidaa daraaddeed su-aasha marka kan isweydiinta leh ka jawaabiddana u baahani waxay tahay diinteennu maxay ka qabtaa qodobadan shanta ee aan tilmaamnay? ma inoo ogoshahay inaynu qaadanno shanta tan inaynu horu marno mise shantan iyo diintu way iska hor imanayaan oo labada midun waa inaan qaadanaa? waxaan leenahay inay iska hor yimaadaan waa qadiyad aan macquul ahayn iyadoo aan tilmaamayno inaynu leenahay diintan ilaahay xaggiisay ka soo degtay isla markaa ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu bini aadamku ku horu maro noloshiisa adduunyo iyo tiisa aakhiraba. bal aan tilmaama haddaba shantan qodob baanu soo qaadanno. qaanuunka koowaad ee horumarku waxa weeyaan baa la yidhi inaad dhulkaaga istiqlaal ku samaysid ama dhulkaaga inaad ka faa'iidaysatid waxa dul saaran
iyo waxa hoostiisa ku jira labadaba. ilaahay wuxuu qur-aankiisa inoogu tilmaamayaa bini aadamka inuu alle dhulkan uga dhigay inuu khaliif ka noqdo, inuu isagu maamulo. waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa. iclaankii koowaade ilaahay uu siiyo ama ogeysiiskii koowaade la siiyo malaa'igta, waxa ilaahay uu u sheegay inuu dhulka u samayn doono cid khaliifa. aayad kale ilahay wuxuu leeyahy wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun. ilaahay dhulkuu gacanta idiin gelinayaa, dabeetana wuxuu eegayaa sida aa u gashaan. waxaan leenahay qofka bini aadamkaa waxaa loogu talagalay marka koowaad inuu dhulka kan wax ka qabto. maxaa laga rabaa? waxaynu nidhi waxaa loo baahan yahay dhulka in laga faa'iidaysto waxa ku jira iyo waxa dul saaranba. ilaahay qur-aankiisa markaa wuxuu ku leeyahy huwa ansha'akum min alard wastacmalakum fiiha. erayadaa kooban ee qur-aankaa bal u fiirso. huwa ansha'akum min alard, ilaahay wuxuu idinka abuuraa laydhi dhulka kan, dhoobaa laydinka sameeyey. kadibna wastacmarakum, alأlif wasiin wataa, saddexdaa xaraf afka carbeed waxaa lagu yidhahaa xurufu talb. waxbaa la doonaya. maxaa laynaga doonayaa? cimaaratu lardi buu ilaahay yidhi. ilaahay wuxuu leeyahay dhulkaan idinka abuuray ina camirtaanna waa laydinka rabaa. waxaa laaliya wixii cimraan keenaya dhulkan korkiisa idinkaa laydinka rabaa. idan diintu waxayna faraysaa dhulka korkiisa in la camiro. wastacmarakum fiiha baa ilaahay ku tilmaamaya. ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa kownka ama dunida dhammaanteedba in innaga laynoo sakhiray. alam taraw ana allaha sakhara lakum ma fi الsamaawaati wma fi اlard waasbaga calaykum nicamahu ظaahiratan wabaaطina. wa fii aaya ukhra wasakhara lakum ma fi الsamaawaati wma fi اlardi jamiica minhu. ilahay wuxuu leeyahy waxaan idiin sakhiray samaawaadkan iyo dhulkan waxa kor yaalla dhammaantoodba si aa uga faa'iidaysataan. taskhiirku waa maxay? yacni qawaaniin go-an qaab baan u abuuray, qawaaniin go-an baa loo sameeyey. haddii markaa aad fahamto oo raacraacdo qaabkaa loogu talagalay waad ka faa'iidaysan karaysaa. idan qaab aa uga faa'iidaysataan baan idinku sameeyey baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. aayad kale ilaahay wuxuu leeyahy huwa aladii jacala lakum اlarda daluula famshuu fii manaakibiha wakunuu min risqih wailayhi nushuur. huwa aladii jacala lakum اlarda daluula. ilaahay wuxuu idinka yeeray baa la yidhi dhulka kan mid daluula, mid laydiin duleeyey, mid laydiin fudaydiyey baa laga dhigay inaad ka faa'iidaysataan. ee famshuu fii manaakibihaa baa ilaahay yidhi war dhinacyadeeda socda. dhulkan idinkaa laydiin sameeye ku dhex socda baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. oo wakuluu min risqi, dhulka kan baa laydinka arsaaqaya ka cuna baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala arsaaqdiisa. wa ilaahi nushuur, xagga rabbina waa usoo noqon doontaa. waxaan leenahay ilaahay wuxuu qur-aankiisa in badan inoogu tilmaamaya dhulka in innaga laynoo sameeyey inaynu ka faa'iidaysano. sidaa daraaddeed waxaa layna faray oo layna amray inaynu cimraanul ardi inagu samayno, inaynu dhulka dhisanno. hadday beerta inaad falato, hadday tay waxaa gudihiisa ku jira inaad kala soo baxdo, hadday badta inaad ka faa'iidaysato, adaa lagaa rabaa baa lagu yidhi inaad camirto dhulka kan. adaa lagaa doonayaa baa lagu yidhi. ilaahay wuu fudaydiyee inaad dhex socoto risqiga alle kala soo baxdo. intee laynaga rabaa? ma waxaa laynaga rabaa dhulka camirkiisa inta nin waliba quudkiisa kala soo baxo inaynu inta kale iskaga tagno? maya. daruuriyaadka qura maaha waxa la yidhi la kaalaya. ilaahay wuxuu tilmaamayaa xataa waxyaabaha quruxda keena inaa laydinka rabo inaad ka soo saartaan. ilahay wuxuu qur-aanka ku yidhi huwa aladii sakhara albaxra lita'kuluu minhu laxman طariya. ilaahay badduu idiin sakhiray baa la yidhi lita'kuluu minhu laxman طariya, si aa uga cuntaan baa ilaahay leeyay laxm ama hilib daraya si aa uga cuntaan. waa ko maxaa kale laga rabaa? watastakhrijuu minhu xilyatan talbasuunaha baa ilaahay yidhi, iyo inaad kala soo baxdaan waxaa ku xaragoon lahaydeen. xilya hadday marjaant iyo hadday lu'lut waxaan badda ku jira, taana inaad kala soo baxdaan baa laydinku talagalay baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala.
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله waxa ilaahay idinku sakhiray baa la yidhi ilaahay dheeraadku idin siiyo dhan inaad ka raadsataan walacallakum tashkuruun waxaana mudantiin inaad shukri naqdaan raadiya oo ku shukri naqa baa la leeyahy waxaan leenahay markaasi waxa laynaga doonayaa dhulka beeristiisa ama wax kala soo bixiisu intaynu cunayno qura maaha xataa waxa la yidhi waxaa wax ku qurxasanaysaan oo dhanna isaga kala kaalaya quruxdu hadday xuduudda islaamigaa ku sidii alla yidhi ay waafaqsan tahay islaamkuma diidana ilahi wuxuu leeya ya bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuha waziina ilahi wuxuu leeya matalan waxaa laydin siiyey nicmooyinka ilaahay inugu manaystay baa alla sheegaya markaasaa la yidhi waxaa ka mid ah fardaha baqlaha dameeraha maxaa laydin siiyey waxaa la yidhi litarkabuuha inaad fuushaan iyo shay labaad baa meesha ku jira ilaahay wuxuu yidhi iyo waziina qurux lafteed in lagu xaragoodana waa laydin siiyey waxaynu leenahay markaasi waxa laga rabo inaynu dhulkan kala soo baxnaa ma aha inta daruuriyaadkoo qure in allaaliya intaynu ka soo saari karnaba inaynu ka soo saarnaabaa laynaga rabaa waxaad ka garan kartaa wax ka soo baxa dhulkan iyo sida looga faa'iidaysanayo saa islaamku ugu dadaalay wuxuu nebigu xadiidku leeyahy in qaamat isaaca وبيد أحدكم فصيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر هديبا النبي يقول قيامه كعه يعني أسود وادمر كعيه قيامات كعستي سباب بلا بنطي وبيد أحدكم فصيلة حديث كاو فرصين بدن ومتكين إذن كمدي وقعنتكو هيا بالي فصيلة fasiiladu waa geedkan timirta marka la soo jaray yare uu la abqaalayo yacni timir yaroo la beero uu gacanta ku hayo maxaad ka filaysaa inuu nebigu yidhaahdo wuxuu leeyahay hadday qiyaamuhu kacayo oo aad geed timireed gacanta ku hayso waxaan u malaynayaa markaa wada fakertaan maskaxdiina waxa ka guuxayaa inuu yahay iska tuuroo subxaanallahida ku dadaala ilaan waa qiyaamihii baa kacayaa la yidhi in qaamat isaaca baa la yidhi haddii qiyaamuhu kacayo qof waloo caadiya waxa maskaxdiisa kusoo degdegaysa marka la yidhaha haddii qiyaamu kacayo aad geedtimireed gacanta ku hayso war tuuroo dee laa ilaaha illa allah iyo astakfirallaayo dhankaa u jeeso oo waxba ha qabaninee waxaa wax qabad waayo qofku wuxuu ka fikerayaa maxaad wax u qabanaysaa dee iminkaabay baaba'aysaaye waa kan la leeyahy qiyaamihii saacad kadib buu ku dhacaya way baaba'aysaa laakiin nebi maxamed sidaasi ka gedisan buu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam fastataaca an laa taquuma asaaca xataa yagrisuhaa buu nebigu yidhi oo aad kari karta midkiin uu kari karo inaanay qiyaamuhu kicin ilaa iyo intuu ka beerayo yacni haddaad ka gaadhsiin kartaan baa la yidhi falyagrisa ha beero falahu bidalika ajr waxaad doonaysay adigu aakhiro ajar baad raadinaysay iyadaa ajarkiiya ka gaadhsii baa lagu yidhi yacni fi shariica alislaamiya lama yaqaano waxa la yidhaahdo marna aakhiraan u shaqaysanaya marna dunaan u shaqaysanaya waxaad dunida ku hayso unbaa aakhira lagugu abaalmarinaya shaqadaad qabatay unbaad leedahay wax kastoo aad qabato noloshaada ka mid ah aakhiro abaalkeedunbaad leedahay xumayasaba waxay doontaba ha noqotee cunno aad cuntaa aakhiro waa laga abaalmarinaya o noocaad doonto abaalmar ku qaado waxaan leenahay acmaashaad qabanaysoo dhami aakhiriyo adduun ma kale lee labadaba faa'iiday u leedahay khasaarana waa u yeelan kartaa sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam haddaad geed timireed gacanta ku haysaanoo qiyaamuhu kacayo oo intaanu qiyaamuhu kicin aad ka gaadhsiin kartaan inaad beertaan war beere baa la yidhi kaasa ajarka ka helaysaani geed timireedka waxaa lagu yaqaanaa weliba inaanu ahayn waxaa midhihiisa markiiba la goosto sannadaa la sugaa sanawaad nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu ku tilmaamayaa maa min muslimin yagrisu garsa ilaa kaana maa ukila minhu lahu sadaqa wamaa suriqa minhu lahu sadaqa walaa yarza'uhu axad ilaa kaana lahu sadaqa yacni wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ma jiro qof muslima oo wax beera ilaa iyo waxa uu beeray sadaqa bay u tahy yacni wax aakhiro lagu abaalmarinaya bay u tahy maxaa laga gaadhsiiyey markaa waxaad beerta xataa haddaanad kalsooni ku wada qabin inaad adugu guranayso xataa inaad beertana markaasaa la yidhi haddii waxoogaa lagaa xadana aakhiro waa la helayaa
haddii sadaqay ku taalaydi haddii qof wax ka goostana waad iska helaysaa kaanama la leeyahay war wax beer kulliba waxaad beertay waad leedahay yani marnaba khasaariba maysid baa la leeyahay imaa inaad adigu cunto iyo hadday kaa baxsatana xagga kaluun bay usii horumartay ee camalka sameeyo wax soo saar baa lagu leeyahay kollayba ma lumaysee wax ka soo saar dhulka kan saa daraaddeed buu nebigu leeyahay falaa yagrisu lmuslimu garsan fayakulu minhu insaanu walaa daabbatun walaa tayrun ilaa kaana lahu sadaqa ilaa yawmi alqiyaama wuxuu nebigu tilmaamayaa dhulka waxa yaalla inaynu wax ka qabsanno oo ka soo saarno ilaa xad la leeyahay shaxaadku fi lislaam waa mamnuuc shaxaatagista waxaa loo yaqaanaa nin kale jeebkiiyo loo waabariistaa waa waxaan islaam ku bannaanayn saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay haddii aad xaabo soo guran karto ayaa kuu dhaanta baa la yidhi inaad mid shaxaado wax ku siiyo ama se uu kuu diido la an yaxtatiba axadukum xusma calaa dahrihi khayrun min an yas'ala axadan fa yucطiyah aw yamnaca waxa kuu dhaantaa la yidhi yani wax qabo dhulkan wax ka soo saar baa lagu leeyahy qori xaaboo iska dhacay aad soo qaadato oad suuqa keentaabaa kaaga roon baa lagu leeyahy inaad shaxaad tagto wax weydiisato idan islaamku wuxuu ina baraya inaynu dhulkan waxa ku jira korkiisa ka soo saarno macquul maaha ummadda soomaaliyeed 3,000 oo kilomitiro badabay leedoo gaajaallaysay wax la rumaysan kara maaha lew qof waliba huug qura uu qaato badda dhinaceeda istaago waxa hubantiya qof gaajaysan inaana yeesheen laakiin waan la barin inay wax qabsadaan ee waxa la baray inay wax shaxaadaan waxaan leenahay islaamku wuxuu ina farayaa inaynu wax qabanno dhulkan waxa ku jira inaynu ka soo saarno korkiisa inaynu beerno baddiisa waxa ku jira inaynu kala soo baxno war waxa cuntaanoo quraha kala bixinaa layidhi waxa ku xaragootaan kala baxa baahitir qura maaha baahitir ha dhaafto oo waxa raga gaadha iyo ziina ha gaadha baa layidhi xilya kala soo baxa baa la leeyahy waxaan leenahay innaga ayaa waxaynu xidhnay taaqaatuna alcamaliya kullaha mucatala awooddeenna shaqo oo dhammi waa jiiftaa cid wax qabata ma leh ilaahay wuxuu inoo abuuray inaynu wax qabanno si laynoo itixaamo ayunaa axsanu camala keenna camal fiican camalku inuu wada fiican yaa la raba laakiin waxa weeyaan keenneebaa ka kale ka sii badiyey xumayadu meesha kuma jirto wanaaggii baa la wada samaynaya kiinee wanaagga badiyey weeyaan ma diintaa ceebta leh markaasiyo haddii laga tagaa la horu marayaa mise waxaa ceebta leh ummadda dhulkeedii dhammaa waxba kala bixi kari wayday ummadda ilaahay dhul intaa leeg siiyey waxay cunto ka weyday badda intaa leega la siiyey waxay liqdo ka weyday xoolaha intaa leeg siiyey waxay huwato ka weyday mayadaa ceebtu mise waa diintay rumaysan tahay ilaahay wuxuu fuqahada muslimiintu waxay qur-aan ku tilmaamaan yani ixyaa waxay ku tilmaamaan fiqiga waxa la yidhaha ixyaa'ul ard dhulka noolayntiisa oo ah in qof waloo muslimiba uu tijaabiyo inuu dhul nooleeyo noolaynta dhulku waa maxay waa inaad wax ka soo saarta bay leeyihin inaad dhulka wax ka soo saarto xataa filfiqi waxaa la ysku hayaa ninku hadduu dhul iska xeerto oo wax soo saar yeelan waayo ma laga qaadaya mise waa loo daynaya intuu iska weegaartuu yidhaahdo anigaa leh wax kama dhiso daar ma ku taallo beer kama soo saaro waa dhul uu cadilay yacni oo u diiday muslimku inay wax ka soo saaraan idan waxaan leenahay islaamku wuxuu ina farayaa xataa yacni abwaab dhan baa fiqiga ka warramaya waxa la yidhaahdo ixyaa'ul ard dhulka iyo sidii loo noolayn lahaa ummad waxay cunto raadinayso waxba aan la soo baxaynin inay diinta ceebayso maaha ilaahay wuxuu mamnuucay dhulka waxa kor saaran ee wanaagga u kor saaran dhammaantoodba in ifsaad lagu sameeyo sidaa daraaddeed bay diinta waxay mamnuuc ku ah in la gubo in geed la gooyo aan waxba lagu qabanaynin ilaahay ilaa xad buu ku tilmaamayaa dadka xunxumi sifaday leeyihin wa min annaasi man yucjibuka qawluhu fi lxayaati addunya wayushhidu allaha calaa ma fii qalbih wahuwa aladdu lkhisaam waإida tawallaa sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxarf wاnasl wallahu laa yuxibu lfasaad ilaahay wuxuu sifaynaya kuwa xunxumi kuwa yiin markaasaa inta sifooyin lagu soo tilmaamaa ilaahay wuxuu yidhi hadduu dhulka soconayana wuxuu u socdaa si uu u fasahaadiyo si uu halaaga baa la yidhi wixii la beeray iyo dadkaba
إذا واحد ملك كوركيس كسر بحوا ممنوع في الشريعة الإسلامية هدا wax lagu qabanaynin in la fasahaadiyo bal ahad buu nabigu gaarsiinay dagaalka xataa inaanay banaanin in la gubo ama si la googooyo beeraha iyo geetimiradada iyo waxa kale waxaan leenahay qaanuunka koowaad oo ahaa dhulka waxa ku sabaysan oo laga faa'iideysto diinta islaamiga number 2 wayna faraysaa bay leenahay qaanuunka labaad muxuu ahaa qaanuunka labaad waxa weeyaan baa la yidhi waqtiga ummaddu inay waqtigeeda ka faa'iideysato oo ay u yeesho program ama barnaamij inay ku samayso waqtiga waxa loo yaqaan waxaan leenahay waa noloshiiba qayb ka mid ah haday ka tagto qofkay ka tagto ama ummaday ka tagto waa ummadda ama qofka qayb noloshiisi ka mid ah baa tagay dad oo dhamina hadduu isu tago qaybta ka tagtay cidima soo celin karto balaanegno ahmiyadu waqtiga waxa la yiraahdaa kuleeyay islaamka quraanka si ilaahayna ugu tilmaamo waqtiga sida looga faa'iideystay iyo ahmiyada gaarka ee kuleeyay ayaa ilaahay wuxuu sheegayaa waxyaabahu inuu galladaystay waxayiin dabeetana ilaahay wuxuu yiri wasakhara lakum ash-shamsa wal-qamara daa'ibayn wasakhara lakum al-layla wan-nahara وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلهي وحولي ألا وحيدين سخري عد عادا يضيع حكان يدين صباحيا نولشي نقيبتك قادنيا وحكا الله يدين سخري باللي هبينك إيا مالنت هبينك إيا مالنت وام هوا وقتك تايم بالينسي وحي إلهي نسيا ليلي وحي أويدي ستيبا markaas ay leeyahay waa in tu'uddu ni'mat Allah hadaa isku daydaan inaad tirisa waxa la idinku nimceeyay ma koobi karaysaan nimcooyinka ugu waaweyn meesha ilaahay ku magacaabay waa maxay al-layl wa an-nahar ina time haysato waqti idan waqtigu waa nicmo buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala imam Fakhruddin ar-Razi مثلا tafsir kiisa wuxuu ku leeyahay ad-dahr wa az-zaman min jumlati usul an-ni'am فلذلك أقسم الله به ونبه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها المكلف وإليه الإشارة بقوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا يعني سقوا إلهي سبحانه وتعالى ينوت المامية نمعوين بدن إنو ينسيي بالليل هبين كي مالنتو وفرصة وضيع يقفك بنا آدم كي ويسألهي يلوا كيدين يلي الله الليل والنهار خلفة كويس ويدارنا يلا إذا كدقي لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وحن لأن إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس ميلا بدن مقدار مركو دارنا يا إلهي يعني بني آدم كو مركو دارنا يا وحو دارتا ويني دا وحا وكو دارنا يا قفك مسلم كان وحا وبنان إلهي يقول إنو كو دارتا إلهي لكن مخلوقات كيس كو دارتا إساقو إنو قلت الماما يعني شيء قاسي أهمية دا أما فائدة دو نرشا كلي ساد رادد بقرآن كوحا دارك ساد دارب بدنو إلهي دارنا يا oo waqti lagu dhaaranayo si lagu dareesiyo waqtiga qiimaha uu ku leeyahay diinta tan ilaahay wuxuu leeyahay wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla wal-fajri wa layalin 'ashr wad-duha wal-layli idha saja wal-'asr wash-shamsi wa duhaha wal-qamari idha talaha wan-nahari idha jallaha wal-layli idha yaghshaha waxaaso aayad aad aragto waa dhaar ilaahay waqti uu ku dhaaranayo barqo galab casar habeen maalin markay soo baxayso markay sii dhacayso waayo waxa lagu leeyahay war time-ka arag qiimuhu leeyahay in la qadariyo ilaahay qadariyay oo ka dhigay shay uu xataa ku dhaarto al-imam Hasan al-Basri baa wuxuu yiri waa kasto bariyo mid baa dhawaaqa buu yiri wuxuu ku dhawaaqay ulay bini aadamow war khalq cusub baanahay oo amalkaaga ana aakhira kugu marxaati furaya wariga faa'iideysa dibna kugu soo noqon maayo yani waagu ka sheegaya maalin kasto oo ku bare waa kasto ku bariya wuxuu ku leeyahay maxaad qabsatay ee xaga aakhira aad u sii dhawaysatay ama dunidaada maxaad ka faa'iideysatay aan eegna bal sunnadu maxay ka tiri ama nabigu kaleey salaatu wasalaam muxuu inooga tilmaamay waqtiga waxa nabigu inoo sheegay su'aalaha fara inay jiraan oo qof kasto bini aadam aakhira la weydiin doono su'aalaha afarta ee aakhira la isweydiin doono laba ka mid waqtiga weeyaan yani afar su'aalood baa qof walba wuxuu nabigu leeyahay maalinta qiyaame
lan tazuula qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can 4 khisaal addoonna baa nebigu yidhi labadiisa gomadood ma suulaan yacni ma ka tago mawqifka uu taagan yahay ilaa iyo 4 shay la weydiiye mooyaane 4 su-aalood baa nin walbaba aakhire lagu weydiinaya maxaa 4taas yihi can cumri fiima afnaah waxaa la weydiinayaa war cimrigii lagu siiyey maxaad ku qabatay maxaad ku dhammaysay 50 baad jirtay 20 baad jirtay 30 baad jirtay maxaad ku qabatay timekii baa lagu weydiinayaa aad noolayd iyo waxaad qabatay waxaa kaloo la isweydiinayaa wa can shabaabihi fiima ablaah timku wuu kala macaan yahay waana la kala waxqabad badan yahy waqti gaara oo ka mida waqtigiiba haddana si gaara isagu su-aal gaara leh waa waqtiga dhallinyaronimada waa waqti aad wax kasta qaban karto saa daraaddeed marka hore waqtigii oo dhan su-aal baa lagaa weydiinayaa su-aal labaad baa haddana waxaa lagu weydiinayaa specific time war waqtigii yaraa isaga dhallinyaradnimada la odhan jiray maxaad isaga qabatay isagu waa time ka gedisan nolosha inteeda kale waa nolol mar qura ku soo marayso aan dib kuu soo maraynin waa nolol u baahan waxqabadkeedu inuu ka bato 40 jirka ama 60 jirka inuu waxqabadkiisu ka bato ninka shabaabka ahi yacni ninka 40 jirka waxaa loogu talagalay inuu ka maskax bato ama ka ra'yi bato ka kale ama ninka dhallinyaradii activityga isagaa leh saa daraaddeed baa waxaa la leeyahay war dhallinyaro waqtigii dhallinyaronimada maxaad ku haysay waxa ma la diinay waqti dhallinyarnimo iyo naxaq ku bixisay laba su'aalood kale jiro mid wax weeyaan xoolaha isaga waxa la isweydiiyay xagaad ka keentay xagaad qabatay markii hore xagay ka soo galeen markii dambana xagaad ku bixisay waxa kale lagu weydiinayaa isna hadaad cilmi lahayd maxaad ku qabatay isagana cilmiguna waa nimco dheeraad oo lagu dhiibay isna sidaa tidhi waa la isweydiinayaa idan waxaan leenahay 4 su'aal aakhira la isweydiinayay laba ka midi waxay ku saabsan yihiin waxa waqtiga loo yaqaan iyo saad u gashay سادردد بالنبي وحول عليه الصلاة والسلام من عمره الله 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر ننكي إلهي اللحظة سنة شرسية بالليلي أي النبي بيقولي ننكا يعني تايم بالسية كفلا والله عذر دار يعني آخره وحو كور وريقو ميش متشرا بإلهي تلمامي وحي نكالات تلمامي النبي قلت تلمامي عليه الصلاة والسلام لبني معاه أياتنا labadan nimcadu nabigu yiri dadka yaani inta badani ma oga ama se way baxseen ama way ka luntay qiimaha ilaahay waa maxay labada nimcee nabigu inoo tilmaamaya as-sihhatu wal firaaq caafimaad qabka iyo al-firaaq time marad haysatay aanad waxba mashquul ku ahayn waa nimco weyn baa la leeyahay inaad hesho time ku firaaqa inaad hesho wax ku qabsato waa nimco gaara oo ninkii mooganiba uu moogan yahay waxay leenahay marka war waqtigu waa waxa uu qaalisan bini'aadamku waa u haysto ama se waa nolosha baynu leenayba oo damiyu qofkuba yahay ilaa maalintuu dhashay ilaa maalintuu dhintay intii loo tirinayo weeyaan bada qofku wax kale uu yahayba ma jira da'da lagu tirinayaaba waa inta saa daraaddeed ninkii maanta garan waaya waqtigu qiimaha uu leeyahay ilaahay wuxuu quraanka inoogu tilmaamayaa hadhow aakhiro inuu calaacali doono دبتنا وأورن دونه ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير آخره على علي دونتان بايلا هيدا وحاورن دونتان إلهو ما دبي بيرني يعني ما تايم كيدي بديسي أنه لا ضي si aan u sadaqaysto ama aan u wanaagsanaado ama wixii layga rabay aan ula imaado ilaa wadaad naga celiso bay yidhaahdeen dunida tan aad mar labaad dib noo celiso wixii aanu qaban jirnay waxaan ahayn baanu waqtigii ku bixinaynaa yacni waqtigii lumay ee bilaa macnaha ku tegay waanu ka bedelaynaayo waanu u yeelanaynaa inaanu qiimo siino meel kale aan ku bixinaynaa laakiin ilaahay wuxuu leeyahay waxaa loogu jawaabaa awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar oo miyaan in lagu waantooba aydan noolayn يعني انتي عاد نوليد باكو في الليل هداد وحقبانيسي هداد نقطنا كيوم باطي انتي عاد نوليد باكو في الليل هداد وحقبانيسي فحلا انا مركا اسلام كساس بو فيتشيجي ان وقتك قفك بني ادم كيو كفايديش وحكا لو مسألة ترعضة وقت وهدانو قرشالها فايدة من لما قرانا يسي لوغو سمايو وانو بروغرام يشا قفك وقت يسو سيوغا فايديستو
saadaradeed baa nabigu wuxuu ina baray sidaynu waqtigeenna u program garaysan lahayn aynu uga dhigi lahayn waqtiyo kala gedisan oo waxyaabo kala gedisan aan ku qabanno nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la idhahaa waqtigiisu wuxuu ahaan jiray qayb matalan uu cibaado gaara sameeyo qayb uu caamada iyo dadkao dhan la kulmo qayb uu dadka maamulka laha iyo khaasadiisa uu la kulmo qayb uu reerkiisa joogiyo gurigiisa yacni waqtigiisu ma kala dayacnayna inba meel buu u qorsheeyey inuu gaara ku bixiyo ilaahayna si taa laynoo baro ayaa xataa waxaa laynooga dhigay cibaadaadka muslimka ku waajibo oo dhami inay waqti ku xidhan yihiin maalintii waxaa la yidhi 5 goor xagga alla u jeesoo tuko toddobaadkii maalin ka mida salaad gaara tuko jimco la yidhaahdo haddii jaanisku kuusii bata baa la yidhi habeenkii qaar sunnayaal iyo salaatuleyla baa jiray kuwaa tuko sanadkii markay sanad gaadho bil baad soomaysaa baa lagu yidhi haddii muddadu ay kuu dheeraataad xooliyo waxesho bilo la xajaa jiray waqtigaa waad soo xajaysaa hadday xooluhu kugu bataan muddo markay gaadhaan waqti wax la bixiyaa jiree sanadkii mar baad wax bixinaysaa kullu daalik waa maxay waa in lagu baro timekaaga iyo saaad u qaybqaybsan lahayd inaad qof nool noqoto ku xisaabtama waqtigiisa inuu qorsheeyo bale si taa laynoogu sii baraarujiyo nebigu wuxuu ina baray adkaar iyo wax badan oo la akhriyo markaasaa waxaa la yidhi akhriyuun lama odhan waxaa la yidhi intaas subxii akhriya oo inaha galabka dambe akhri oo waqtiyadaa waxaa akhri yacni adkaar baa laynoo sheegay fi sabaax wa fi awqaat muxadada ah waayo waxaa lagu tilmaamayaa inuu timekaagu program yeesho si aad u program garaysan kartaa waxaa lagu tusinaya xataa cibaadadu inay programid tahay inaan ahayn inuu iska sameeyo inay tahay mid le maxay awqaat muxadada axadu saxaaba baa nebiga la joogay dabeetana wuu ka tegey reerkiisii buu tegey carruurtii iyo dee xoolihii iyo wixii buu ka shaqeeyey markuu cabbaar shaqaynayay buu soo noqday markaasu wuxuu yidhi yaa rasuulallahi markaanu kula joogno iyo markaanu reerka la joogno isku mid ma nihin yacni saa iimaanka iyagu iyo wacdiga kan markaad akhriyaysa saanu u muraaqoonno ama saanu yacni wax u fahamno jannada iyo naarta u aragno hadhow inaanu yaro mashquullaabaad moodaayo dunidii iyo adhigii iyo xoolihii iyo dumarkii wixii marka la kala celiyo in baab kale la yaro galo nebigu wuxuu ku yidhi markaas sidaa iminka tiin haddaa weligiinba ahaanaysaan markaa malaa'igtaaba suuqa idinku salaami lahayde yacni sifadii bini aadamka waa ka tegi lahaydeen xagga malaa'igtaa ku biiri lahaydeen haddii waxaaguba dee cibaado maxdiya yihiin walaakin yaa xandala saaca wa saaca buu nebigu yidhi xandalow waqtigu waa saacad iyo saacada wada yacni saacaadkaaga ku dar kuwa aad xaafadda ka shaqayso kuwa aad xoolaha ka shaqayso qaar aad carruurtaada boodboodsiiso carruurta xaq bay kugu leeyihin noloshaada qayb bay ku leeyihin saacada waa inuu yeeshaa ilmahaaga yar aad cayaarsiiso ama si aad boodboodsiiso waa ilaa aakhire waa lagu weydiinaya haddaad cidlo ku dayacdo oo naag farajiyeed ay boodboodsiisa un adna aad ka seexato waxaan leenahay qofka muslimka ah waxaa loogu talagalay markaa noloshiisu inay waqtiya yeelato oo wax waliba waqtigiisa ay fulaan saa daraaddeed buu nebigu leeyay war xandalo waa saacad iyo saacad noloshu haddaad saacad waxaan qabanayso saacaddanna kan qabo isaga dembigu saacad ma leh saacad iskooyi meesha kuma jirto ee waa saacadahan waxa la qabanayo nolosha wax anfaca waxaynu leenahay saxaabiga la yidhahda salmaan alfarisi baa wuxuu habeen u soo hoyday abidardaa saxaabi kaloo la yidhahdo markaasuu damcay inuu kaco salaad tukado war seexa buu yidhaha tukanay wuu haddana soo kaco wuxuu damcay inuu tukado war seexuu yidhi hadda ha tukanay mar kaluu soo kacay war seexuu yidhi aakhirkii mar dambe uu kiciyo wuxuu yidhi imankayna kic haddaynu tukanaynahay dabeetana wuxuu salmaan ku yidhi saxaabigii kale ina libadanika calayka xaq waliahlika calayka xaq yacni wuxuu tilmaamay war jidhkaagu xaq buu kugu leeyay yacni saacaadaad nolosha siisay inay seexato nafta taniyo u raaxayso reerku xaq buu kugu leeyay buu leeyo saacaadkiisa gaara inaad siiso faadli kulla dii xaqin xaqahu buu yidhi haddana kacoo tuko buu yidhi salaaduna saacaadkeeday leedee tuko idan qofka muslimkii noloshiisu waa inay brogramid ahaataa nolol fawdawiya male qofka islaamiga ah isagoo ilaahay qur-aankiisa inoogu tilmaamaya say muslimku noloshooda uga faa'iidaysan jireen baa ilaahay wuxuu leeyay ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat wahum laha saabiquun waa salafu saalix u fiirsan labada eray yusaaricuun saabiquun ilaahay wuxuu yidhi kuwani waxay ahaayeen kuwo khayrka u degdega yacni time factor baa waxa lagu ammaanayba waa maxay waa yusaaricuun fi lkhayr iyo wahum lahaa saabiquun waana kuwii u dheereeyey baa la yidhi xasan albisri
caalimkii muslimkee la odhan jiray baa wuxuu yidhi war anigu waxaan soo gaadhay buu yidhi taabiciintii buu la hadlay isagu waa taabici marka wuxuu ka warramayaa qoladuu soo gaadhay uu sheegaya waa kuwii nebigu uu tarbiyeeyey waa saxaabadii yacni saxaabadu waxay dadka kaga gedisantay macallin gaara bay heleen ummadoo dhan macallinkii loogu talagalay inuu tarbiyeeyo iyagu laba kulmeen innaga waxayna soo gaadhay hadalkiisii iyo diintii uu inoo keenay laakiin iyagu waxay wejigay saareen oo isagaa gacantiisa ku tarbiyeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu xasanulbasri wuxuu ku leeyahay markaa taabiciintii qoladii aan nebiga soo gaadhayna saxaabada soo gaadhay ayuu wuxuu yidhi adraktu aqwaaman kaanuu calaa awqaatihim ashaddu minkum xirsan calaa daraahimikum wa danaaniirikum anigu war waxaan soo gaadhay buu yidhi rag waqtigoodu uga ilaalin badan oo uu kaga qiimo badan yahay sidaa idinku dirhamka iyo diinaarka u ilaalisaan yacni waqtiga siday u ilaalinayaan bay ayay ka jacayl badnaayeen idinku saa lacagta u ilaalisaan innaga waxaa la yaqaana qofku dee lacagtiisa kolley waa u feejigiyo wuxuu siiyaa yacni maskaxdiisa qayb badan si uu u ilaashan lahaa nimankaasi waqtigay siin jireen buu yidhi qaybta badan siday u ilaalin lahaayeen cumar bin alkhataab baa waxaa laga wariyaa inuu isna lahaa innii akrah an ara almuslima laa fii amri dunyaa walaa fii amri ukhraa waa nacabahay buu yidhi inaan arko qof muslima aan tu adduuniya tu aakhira midna haynin qof muslim oo meel iska fadhiya inaan arko waa waxaan aad u karahay buu yidhi amase u nacabay waxay leenahay hadduu qaanuunka labaad ee horumarku yahay in wakhtiga ummaddaa lihi ay ka faa'iidaysato oo weliba wakhtigeeda ay brograam u samayso ma tahay islaamku mid ina faraya kaa mise maaha waxaan u malaynayaa kaana jawaabtiisu inay caddahay qadiyadda saddexaad ee horumarka ku xidhani waxa weeyaan bay yidhaaheen in la helo alcilmu watakhasusaat in la helo aqoon cilmiyeed iyo takhasus yacni in la helo fakal kasta ama qayb kastoo nolosha ka mida wixii looga baahnaa waxaan u malaynayaa taasi inaanay sharax badan iiga baahnayn oo waa ogtiin islaamka iyo yacni sida gaarkee uu u qiimeeyey cilmiga qur'aanka intii ugu horraysay ee qur'aanba ilaahay dunida u soo dejiyo waxay ahayd aayaadka ugu horreeya suuradda iqra la yidhaahdo aayaadkaa haddaad akhridaad ka garan kartaa qadarintu islaamku cilmiga siiyaa waxay tahy ilaahay wuxuu leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa awalan iqra baa la yidhi alqiraa'a baa loo tilmaamay magaca rabbiga akhri baa la yidhi waxaa ilaahay ku tilmaamayaa aayadda gabagabadeeda aladii callama bilqalam waxaa la tilmaamayaa qalinka iyo qoraalkiisu faa'iidadu leeyahy akhris baa la sheegay markaase haddana qalin la sheegay markaase haddana ilaahay wuxuu leeyahy callama alinsaana maa lam yaclam diinta nusuustii ugu horraysay ka soo degtay cilmi ka warramaysay waa iska cadday markaasi cilmiga iyo mowqifka ay ka taagantahay maadaama qur-aanba wixii ugu horreeyey ka soo degay ay kaa ahaa waxaad garan kartaa mowqifka diinta tan ay cilmiga ka taagantahy sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa nuun waalqalam wamaa yasturuun ilaahay wuu dhaartay waxaan idhi waxa alla ku dhaartaa waxa weeyaan wax lagu tilmaamayo qiimaha uu leeyahy nuun waa xarfun min xuruufi alhijaa waalqalam wamaa yasturuun ilaahay wuxuu ku dhaartay nuun iyo qalin iyo waxa uu qorayaba ama waxa la qorayaba waxaad garan kartaa markaasi qiimaynta qoraal iyo waxbarasho ay ku leedahay diinta tan xad baa ilaahay gaadhsiinaya uu leeyahy innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa alleba kuwa ka cabsada waa kuwa cilmiga leh un baa la yidhi haddii meesha cilmi jiruunbaa cabsii jirtaa baa ilaahay tilmaamaya xad baa ilaahay tilmaamaya nebi maxamed la leeyahay ilaahay bari laakiin maxay bari maxaa uu weydiisanayaa nebigu ilaahay subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyahy waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow siduu nebigu alla u baryi lahaabaa la baraya markaasaa ilahay wuxuu leeyahy waqul rabbi zidnii cilma waxaad tidhaahdaa baa ilaahay leeyahy nebi maxamedow ilaahu cilmigii korni bari ilaahay oo ilaahay waxaad weydiisataa in ilaahay cilmiga kuu badiyo amase cilmi badan aad garato waxaan leenahay islaamku xad buu ka taaganyay markaasi uu qadariyo cilmiga dhammaantiiba dagaalkii koowaad ee muslimiintu ay galeen beder dagaalkii ugu weynaa markay gaalada ka qabsadeen dad badan
dadkii la qabsaday muslimiintu waxay isku afgarteen markaasi inay furasho ku qaataan yacni maadaama xoolahoodii muslimka maka lagu haysto aanay xoola haysanin ay madiine joogaan maadaama dadka kale gacantooda soo galeen inay maxaabiista weydaarsadaan maxay furasho wax lagu furto isla markaa waxa ay culamaadu taariikh yidhaahdaan 40 waqiyadood baa laga rabay qof kastoo gaaloo la celinaya in bedelkiisa lagu bixiyo badh baa jiray aan lacag haysanin muxuu noqday iyagu waxay isku furanayeen waxa la amray nin kastoo wax qori yaqaana inuu 10 qof oo muslimiinta ka mid ah wax baro yani xadkaasay gaadhay la leeyahay dagaalkii koowaad ay galaan waa gaaladay soo qabteen waxa loo fakari lahaa nimankeenu sheegnay madaxa ka googooyo waa gaale markaas haddana waxa la yidhi waxba ka gooyinay bal sii daayo laakiin 10 qof wax baro 10 qof markuu wax baro qiimayntaasi ha lagu furto isagoo la sii daayo markaa aqoontu islaamka waxay ka joogtaa markaasi xad ka gadisan dadkeennan xadkay ka joogto waxay ka joogtaa xad aqoonta islaamiga ama waxaan cilmiga islaamiga waxa loo qaybiyaa laba qaybood waxa wiyaabaha waajibka qayb fardu cayn baa la yidhaha qaybna fardu kifaaya la yidhaha fardu caynka waxaa la yidhaha waxa qof kasta oo bini aadama gaarkiisa looga doonayo fardu kifaayana waxaa la yidhahdaa waxa laga rabo bulshada tan in laga helo hadday bulsho muslim oo meel ku nool tahay waa in laga helaa shaygaas ama 2 ha taqaana ama 10 ha yaqaanin ama 20 waa inay baahida dadkaasi ay qabaan wax kafeeya waa in laga helaa tusaale ahaan waxay leeyihiin مثلا لو احتاج المسلمون لصناعة إبرة ولم يوجد بين المسلمين من يحسن صناعتها فكل المسلمون آثمون وحيلين علماء المسلمين تي هدي مسلم كوبا هذا بيد هذا إربط إنه سمايسته هل إربطة إنه سمايسته هدو مسلم كوبا هذا ولا جوا يا مسلمين تمد أقان ولا سيدا إربط الله سمايو دم أنت دوا الدنبيليا آخرنا ولا ولا قبصنايا يعني فرض كفاية وحلا يرادا وح هدي قيبة يسمى مثلا صلاة الجنازة الله يراها هو فرض كفاية ميت كإللي قلت كذا هو واجب دك مسلمين تعصانا لكن بعد كم إذا هدي كنت كذا دنبي وكولا دعيا دك يعني دك وحلا الله قبصن مايو حديث اللي قبلت كم ويعيد ماشي تجويده دك كورنمي وولا الدنبيلي سيدو كلام على ليه هدي مسلم كو إرباطه بهذا هنا يستبايستان وإرباط دي اللي هو يمت سمين يقارنا دمان تودوا الدنبيلة آخرنا مدك بحسن مايو وحلانا إسلام خوحو إنباري نولل شتن كقديسان وحو إنباري نولل آدوغ قالسان أمسي كقديسان قاب كيمان تونولي نبي عليه الصلاة والسلام وحليه طلب العلم فريضة على كل مسلم علمي غيب برشدي شبالي لقف كسطاء مسلم وكو فرض قف كسطاء مسلم علمي هو فرض وحلانا قيبها قاركود وفرض عين قيبها قاركود وفرض كفاية مثلا قف والأو مسلم إنه يقانا صلاة سوء كذا إيا وحي كو الصحدة إيا وحي كو برتا قف ولبقى كيسي واجب قطي بلشد وح كسطاء وباهنتي وعلمية إني هشاه بلشد واجب بيكوتل فرضكم محوية هاي مركا لأن أمد واكو فرض يعني دادك مسلمين تي وحا فرض كالإله قيمين قارو كربيسية ومحي يعني مركا لإله وحا اسمه فرض قف كستو مسلم وحو الرميسية واجب كوركي سسارن وإنو قتاي تاي يعني وحويا واجب قف ولو مسلم وحو فكر يسيدو قدن لها إلا هو واجب صارنه إنو وحبرطا وواجب قف كستو صار بيلان marka wax kasto isku dayay ka celiyaan wuxuu isku dayayaan u dhaafo ila waa waajib laga rabay waxaan leenahay waa faradka marka leenahay waxa weeyaan waa waajib uu gudanayo qof kasto oo muslimi laakiin uu gudanayo ilaahay dartii waxa kala nooca waxa marka aad u sameynayso nolol caadiye marka ilaahay wax kaga raadinayso waxaan leenahay inaad fiisigiska barato dadka muslimka ku anfacda waa shay aad ilaahay wax kaga raadinayso ajar leh sida salaadu ajarka u leedahay klaaska ajar ku leeday hadii qaradku yahay in dadka muslimiinta ugu gargaarto waa iskaga mid markaa ka masaajidka ka dhex tasbiixsanaya iyo ka klaaska qalinka iyo buugga la fadhiya ee laakiin u baranaya in waajibaadka dadka muslimka xambaaro ama wixii looga baahnaa inuu fuliyo idan waa kala nooc qof u arka waxa kale inuu yahay cibaado ilaahay ugu dhawaanayo iyo
iyo qof cilmi raadis u baranaya lacag ku hel waa kala nooc bay leenahay markay la leeyahay qofka kani wuxuu u arkaa faradku inuu yahay shay alla loogu cibaadaysto macnaheedu waxa weeyaan qofku markuu sii badsadaba wuxuu dareemayaa maxay inuu xagga alla usii dhowiye مثلا salaada waxaynu rumaysanay inay cibaadadtay marka waxa maskaxdaada ku jirta marka sunnaha sii badisaba inaad xagga alla usii dhawaatay waxa la mid ah bay leenahay aqoon kasto muslimku u baahan yahay markaad in ka sii badan digriigi hore mid ka sareeyay markaad sii raadisaba waa cibaadaad xagga alla usii dhawaanayso ama se waxaan leenahay waa ajar sii kordhayo adigu aad leedahay idan waa kala nooc muslimka hore qaabku wuxuu baran jiray kan maanta jooga qaabku wuxuu bartaa waa kala nooc waxbarashada muslimku wuxuu ka rumaysnaa fikrad ah quraanku inuu yahay kitaabkii ilaahay soo dejiyay duniduna inay tahay kitaabkii alla abuuray waa laba kitaabo labaduba ilaahay tilmaamaya labadaba inaad barataa isku sibay ku saarayeen quraanka waxa ku qoran inaad barato iyo dhulka kan waxa yaala labadaba alla leh inaad barato waxay leenahay waxa kala nooca dadkii muslimiinta hore markaas cilmigoodu waxa ka ufuqa ballaaran leh ee uu ninku barto culuum diineed fiqh uu barto dhaqaale uu barto siyaasad uu barto dagaal uu barto maqaab la isu maamuliyo nidaam nololeed uu barto tawxiid uu barto luqo uu barto dhammaanteedna uu arkayay physics uu barto chemistry uu barto dhammaanteedna uu arkayay waxa la loogu dhawaanayay inay tahay waa nadariyad ka gedisan marka taymka wax lagu barto way nadariyadani waxay ahayd wax loo arkayo inuu waxa kale cibaado yahay sida daraaddeed bay xadaaradii hore ama dadkii muslimiintii hore muddo yar bay waxay ku noqdeen dad dunida cilmigiisii hogaamiya carabi waxay ahayd dad umiyina waxna qorin waxna aqoonin markuu nabi maxamed ka soo dhex baxay wax haba yaraatay agtooda yaallay dhowr iyo 10 nin baa wax qori jiray baa la yidhahdaa gabigoodaba marka la isku daro dadkii caynkaas ahaa waxay dunida cilmi ku hogaamiyeen markii fikradda tan ay adeegsadeen ama si ay qaateen islaamku wuxuu yaqaanaa markaas ama dadka muslimiinta ah dhexdooda cilmigu wuxuu ugu leeyahay qadarin siday caqiidadoodu qadarin ugu leedahay macallinku wuxuu qadarin u leeyahay iyo ardayguba cilmiga daraaddeed ninka macallinka ama ustaadka ahi waxbuu u baranayaa waayo wuxuu og yahay inuu faral uu gudanayo yahay dadka waxbuu barayaa wuxuu og yahay waajibaad saaran oo lagu leeyahay inuu bara inay tahay ardaygu waxbuu u baranayaa wuxuu og yahay inay tahay dariiqa jannada lagu tago ma aha wuxuu u baranayaa injineer noqotidoo injineernimada ka yara lacag badan tibka ama kulliyadda inaad gasho siyaasadda iyo iqtisaadka talow teel lacag badan hadhow dawladda kharash kaga helaysa fikradaasiba ma oolin caadigii muslimiinta fikradda meesha taallay waxay ahayd ardaygu wuxuu wax u baranayay wuxuu u arkayay inay tahay dariiqa jannada geeya waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa qofka mara jid mara isagoo waxbarasho u raadinaya inuu yahay yani ilaahay wuxuu fududeeyaa jidka jannada baa layidhi idan siduu ugu dadaali jiray qofkii muslimkii hore inuu masaajidka u kaco ayuu ugu dadaali jiray inuu jaamacaddiisana qabto ama wax barto caalamul islaami waagay culamada muslimkii joogtay lama aqoon nin qoraayo wax qoro u qoro inuu lacag helo kasbiba ma ahayn qoraagu ama saynisyahanku markuu nadariya cusub soo saaro ama cilmi uu keeno dunida uma baran jirin inuu magac ku helo ama inuu xoolo ku helo wuxuu u baran jiray inuu waajib saaran fuliyo weliba fi shariica alislaamiya wuxuu nabigu ku tilmaamaya ninka cilmi uu garanayo muslimee qariya in ilaahay maalinta qiyaamo xakama naara lagu xidho yani ninka professorkii markaa cahdigii muslimiinta ay muslim haayeen wuxuu rumaysnaa wuxuu yaqaano inuu gudbiyo si uu uga baxsado lijaamka naareeda aakhira la isku xidhayo muu ahayn markaa nin lacag ku doonayo qura waa jirta yani lacagtan iyo jaamacaddan oo dhan rag maamulayo kharashkeedoo dhan qabay awqaaf baa maamuli jirtay muslimiina islaanta baadiyaa joogtaa bixin jirtay kaam baa soo maray gabadh muslima oo mu'asasaad dhan oo tacliimiya keligeed bixin jirtay kharashkeedoo dhan laakiin waxaan leenahay way ka gedisnaayeen noloshu caynka kan wuxuu lahaa mucaad ibnu jabal saxaabiga la yidhahdaa wuxuu yidhi tacallamu lcilma fa ina tacallumuhu lilahi khashya waar waxbarta buu yidhi waxbarashadu waa alla ka cabsiye wa talbuhu cibaada raadinta cilmiguna waa cibaadu yidhi wa mudaakaratuhu tasbiix inay ardaydu isla eegto deriska isla baadhbaadhaa waa tasbiix buu ku leeyahay subxaana allah iday la mid tahay waalbaxthu canhu jihaad inuu ninku fekero isku dayo inuu invention cusub keenaa war waa jihaad buu leeyahy
wa tacliimuhu liman laa yaclamuhu sadaqa kaan wax garanaya inaad wax bartaa war waa sadaqa aad baxsatay wa badluhu liahlihi qurba talkiyoo la siiyaana yacni dadka u leh inay bartaan oo la baraana war waa low dhawaanshiya buu leeyahy ummadda caynkaa cilmiga u arki jirtay iyo ummaddan maanta aad bay u kala gedisan yihin waxaynu leenahay markaas ibnuljawsi caalimka la yidhahdee muslimkaabaa wuxuu yidhi yanbagii lilcaaqil an yantahiya ilaa gaaya maa yumkinu ninka maskaxda le buu yidhi wax kala garanaya waxa u habboon buu yidhi inuu raadiyo hadaf gool uu raadsadaa inuu jiro inta ay suurtagal tahay buu yidhi inuu meeshaa gaadhi karo falow kaana yutasawar liaadamiyin sucuudu samaawaat lara'aytu min aqbaxi naqaa'is ridaahu bilard caalimkaasi waa intaan dayax gamceedadan iyo waxaan muu joogin dabeetana wuxuu yidhi haddii ay suurtagal tahay buu yidhi caqliga bini aadamka qof inuu fekero ku fekero in samada la koro ninka dhulka ku hadha nacasnimuun baanu arkaa buu yidhi yacni wuxuu caalimkaa muslimkii waa goorma ibnaljawsi waa goorma goortuu warkan sheegaya wuxuu leeyay falow kaana yutasawar liaadamiy sucuudu samaawaat lara'aytu min aqbaxi naqaa'is ridaahu bilard hadday suurtagal tahay buu yidhi qof muslimi inuu yacni qof bini aadami inuu kaco samooyinka xaggeeda qabto waxa aad u foolxun buu yidhi ama liidasho ah inaad dhulka adigu raalli ka ahaatun inaad iska joogto walow kaanat innubuwa xasili bilijtihaad haddii buu yidhi nebinimada ijtihaad iyo dadaal lagu helayo ra'aytu lmuqasira fii taxsiiliha fii xadiid waxaan u arkaa buu yidhi ninka aan raadin nin xadiid ku jira ninku daafad ku jira dhooba ninkuu jiraan u arkaa buu leeyay yacni wuxuu leeyahy xataa hadday nebinima tahay mid ijtihaad lagu helayo ninkii raadin waayo waa nacasuun buu leeyahy yacni waa in la raadiyaa muxuu tilmaamayaa markaa yani wuxuu tilmaamayaa wax kasta oo boosibula oo aqoon oo dunida korkeeda taalla inay dadka muslimiintii raadiyaan waxaan odhan karaa dawladdii dunida muslimka ugu dambaysay cuhmaaniyiinta la odhan jiray maca ducfiha iyadoo liidatay oo markay sii burburaysay ahayd waxay hub lahayd oo dhan iyadaa samaysan jirtay cid baan iska celinayaa waxna ma sameeyo macquul maaha ama kaan iska celinayaan hubka ka soo gadanaya isagaan ku eriyayaa dunida hore loogama arag bal taariikhda caalamka waxyaabahaan lagu arag waxaa ka mid ah ummad tidhaahda ummad kale luqadeed baan ku horumaraynaa taarikh lama hayo yaabaan waxay ku horumartay afkeeda af ingiriisi wax kuma baratay keeday technologyga ku gaadhay germany keeday ku gaadhay ka maraykana kiisu ku gaadhay dunida xataa taariikhda marka la darsa bay dhahaa lama hayo qolo tidhaahda af reer kalaanu anagu ku gaadhaynaa xagga sare laakiin maca alasaf ciddii wax darsi lahayd baa iska liidata waxaynu leenahay hadduu yahay qaanuunka saddexaad ee lagu horumaraa cilmiga iyo takhasuskiisoo la keeno islaamku wuxuu ina farayaa baynu leenahay uu waajib ka dhigayaa in wax la barto wax kastoo ummaddu ay u baahan tahay hadday baran weydana inay dembiilatay oo aakhiro waxay ku cadaab mudanaysa uu ka mid yahay qodobka afraad waxaa la yidhi qawaaniinta taqadumka ama bini aadamku uu ku horumaro waxaa ka afraada alistiqraar asiyaasi amase inuu nidaamka nololeed ee meesha ka jira uu mid mustaqira iyo degan yahay walow xataa bal muddana ha noqotee waayo hadduu nidaamku administrationka meesha yaalla hadduu noqon waayo mid cilmigii iyo dhulkii iyo projectskii iyo wixii la waday dhan qudha u jiheeya dee waxaa dhacaysa sidii dhacday ama saynu ku aragno had iyo goor caalamkaynu ka nimee saddexaadka lagu tilmaamo in ninkii hore kursigu ku fadhiyay haddii badhasaab kale lasoo bedelo isna uu xagga kale u jeediyo un miiskiiyo kursiga inuu waxii uu projectkaasi uu sameeyey inuu dhammaystiro daayay inuu xagga kale u jeediyo marka waxay yidhaahdaan nolosha haddii laga rabo horumar meel dagaal ka jiro noloshu kama horumarto laakiin noloshu waxay horumartaa meel istiqraar ka jiro deganaanshiyo khaasatan xagga nidaamka ku saabsan islaamku taama ogolyi yacni taas waxaan u malaynaya inaanayana jawaab badan u baahnayn dadka muslimkaa waxa ku waajiba imaam waaxida inay yeeshaan oo khaliifa la yidhaahdo dadka muslimiinta oo dhamina inay kaa hoostiisa ku jiraan qaab nidaam nololeed buu islaamku leeyahy in badan waxaa muranada maanta meesha yaallawiyey haddii diinta la qaato saan baa dhacaysa ama hadduu maamulka gala caynkan boo dhacaysa laakiin waxaa aad wax looga naxaa ka waxaan sheegaya waxna kama garanayo
kan le haddii la qaata gacantaa la isku heriyaa ama waa la baaba'ayaa. salaada saa loo tukado qaar badan waxaa lay tilmaamaya inaanay aqoonin say salaada u tukadaan. mashkiladdu waxa weeyaan in salaadiisii garan waayay si loo tukado oo islaamkaaga fidyoonayo haddii la qaato halkan baa go'aysa iyo halkan baa baxaysa. laakiin islaamku nidaam buu leeyahy ka gedisan nidaamada dunida yaaloo dhan. dimuqraati ma aha, dictatorna ma aha, shuuciyad ma aha. haddaa waa maxay? waa islaam. oo islaamka kiisii waa caynkee dee barta arka halkuu ku qoran yahay kitaabkanaa sidataan iyo sunnadan buu ku qoran yahay. arag qaabkiisa maamul qaabku yahay. hubanti waxa aynaanu dimuqraadiyad ahayn kana gedisan yihi. masaawi dimuqraadiyadu ay leedoo dhanna inaanu lahayn. dictator maaha waanu ka gedisan yihi. shuuciyad maaha waana ka gedisan yihi. maalin maalmaha ka mid ah nin gaal mas'aladaasi isla niqaashnay dabeetana wuxuu sawiri kari waayey intaba mid ka gedisan. waxaan waa nidaam ka gedisan oo u baahan dariskiisa in lagu sameeyo ama sida nidaamnimadiisa loo barto. laakiin macalasaf maxaan gaal kala hadli kuweennii baaban garanayna. wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam baayacanaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam axadu saxaaba baa leh nebigii alle wuxuu nagula bayctamay buu yidhi cala asamci waataaca fi lcusri walyusr wa fi lmanshati waalmakrah wacala atratin calayna waan laa nunaasica alamra ahlah وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. إن إمام مسلم الله رب يعتمه والله يقبله بشرط بيعاد مدين دلا ما هي دجالة إسلام قد دستور بوليه قانون هذونك مدحوينه ونافل عسيليه وسكت جيو ولا رب يعتمه يا وحل رب يعتمه يا دستور كايا قانون كاسير وفلينيو حق ما ليس يقولون وحكم بدلاتنا حق مليه adna waxa kugu waajiba intuu fulinayo inaad ugu gargaarto waad ku raacdo. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy idaa buyica aliimaamayni faqtulu thaani. haddii iyadoo imaam muslimi jiro oo qaabkii loo dhaqmayay ay sax tahay mid kale uu isna dadka badh la baayactamo u yidhaha anna xaggaan imaam ka ahay warka kala dila buu nebigu yidhi. yacni nidaamku waa inuu mustaqir noqdaa. ka kale ha la dila buu yidhi ma suurtagal ahe kan baa meesha ka talinayeen. waxaan leenahay nidaamada maanta dunida soo maray ee lagu horumaray waxay wada ahaayeen nidaamo marxaliya. muddo ayay sugnaayeen oo suurtagala in lagu horumaro laakiin muddada hadday dhaafto waxa qasab ah inuu burburo. nidaam kasta oo marxaliya muddo lagu horumarayna gudihiisu ku siday wixii burburinayay. matalan nazisamka nidaamkii Germany ka jiray waa lagu horumaray muddadiisi iyo Germany way ku horumartay xaggii technology-ga laakiin hoostu ku sitay wixii burburinayo waa kii burburay. yaabaan intaanay dagaalkii labaad ee gudaha gelin yaabaan ama Japan waddanka la yidhaahdaa dagaalkii labaad ee dunida markuu galaya waddan horumarsan buu ahaa laakiin waxaan leenahay hoostiisu ku siday burburkiisa wuu burburay. shuuciyaddu ilaa xad bay horumartay inkastoo maanta ay gaajoonayso laakiin haddana dayaxa waxbay ka fuushay oo cirka qoladii wax u diratay bay ka mid ahay. waxaynu odhan karnaa technology-geedu horuu u maray laakiin gudahay ku sidatay wixii burburinayo way burburtay. dimuqraadiyadda reer galbeed muddaa lagu badhaadhoo horay ugu martay gudahay ku sidataa wixii burburinayo way burburaysaa. aniga maaha kale waa burburaysaa iyagaa leh. haddii loo baahdo daliil waxaan ka keenaynaa adillo ciddooda ugu aqoon sarraysa. in shi'tum waxaa akhridaan 3 nin oo 3duba Nobel Prize sitaan buugaagta ay qoreen. Alexis Carrel mandanan buugga la yidhaahduu qoray. René Debout So Human and Animal buugga la yidhaahduu qoray. iyo odayga Jarmal philosophy of the civilization qoray. 3duba Nobel Prize bay sitaan. 3duba waa khubaro reer galbeeda. 3 midna muslim maaha. iyagaa le waa burburaysaa. waxaan leenahay iyagaa saan qiraya aakhiru filosof uu lahaa ingiriisku Russell Bertrand Russell wuxuu qoray intaha dawru rajul al-abyad. ninka cad buu yidhi waqtigiisi wuu dhammaaday. inagu maynan dhammaynay isagaa le wuu dhammaaday. waxaan leenahay xadaaradda reer galbeed waxay leedahay wixii kuwii hore dumiyey baanu hoosta ku sidanaa waa dumaynaa.
ama technology-ga kani xad buu gaadho wuu burburayaa mana aha in la leeyahay bini aadamku heer baa jirta markuu gaadho uu gaboobo oo dabeetana xadaaraddu ay ka burburto ma aha tafsiirkaa tuwaynebi iyo cidda raacsiisan baa qabta qoraaga ingiriise magacaa leh inkasta uu ka soo dheegtay ibnu khaldoon caalimkii muslimkee la odhan jiray waa ninkii u horreeyay fi siyaasa walijtimaac wax ka qora haddana waxaan leenahay muddo waa lagu badhaadhay laakiin sidii kuwa kaleba ay hoosta ugu siteen wixii duminayay ayay leedahay laakiin waxaan leenahay nidaamka islaamigii intaaba wuu ka gedisayay maadaama aan idin idhi war dimuqraadi ma aha oo wuxuu ku khilaafsan yaa jira ma aha socialism iyo marxism oo wuxuu ku khilaafsan yaa jira dictator ma aha oo wuxuu ku khilaafsan yaa jira boqortooyo ma aha oo wuxuu ku khilaafsan yaa jira waa nidaam intaba ka gedisan nidaamul khilaafa baa la yidhaahdaa qaab loo dhaqmo buu leeyahy hadday naftu inugu sinto waan jeclahay isaga iyo ka reer galbeed intaynu isbarbar dhigno inaynu ka waranno aragnana mid waliba wanaagga uu leeyahiyo balxumaha uu leeyahy laakiin waxaynu leenahay islaamku waa nidaamka qura baan odhan karaa ee leh nidaam mustaqira oo aanay xadaaraddu ku burburin weligeed haddii la wado 1000 sannadood buu dunida hogaaminayay xadaaradiisa oo aanay marnaba burburin laakiin iyagaa ka weecday dabeetana way ka burburtay yani xadaaradii islaamiga cidima burburin muslimkaa burburiyey iyagaa ka weecday qaabkii loogu talagalay inay u noolaadaan dabeetana way ka burburtay aan soo kooba mas'aladatan waxaan leeyahay nidaamka mustaqirka islaamku wuu leeyahy waqtigaanaynugu simaynime gaar baynu uga warrami doonaa nidaamkaas iyo qaabku eegyahy saa daraaddeed waxay leenahay uun nebigu wuxuu tilmaamay inaan la ogolayn nin ka daba ordee hadday ummaddu mid doorato oo uu kitaabkeeda ku maamulayo inay waajibtay ka labaad ay yidhaahdaanna waa layla baayactamay in la dilo si uu nidaamku u sugnaado waxay leenahay markaasi waa qodobkii afraad ee horumarka qodob shanaad baa jiraa la yidhi oo ah waxa isna lagu horumaro qodobka shanaad wuxuu yahay الثقافة الملائمة أو الثقافة المناسبة للتقدم المدني إنه جرى كالجر رقم qaab dadku ay u nool yihiin oo ogolaanaya inay noloshu horumarto yani ummaddu waxay rumaysan tahay iyo caqiidadeeda iyo dhaqankeedu hadduu yahay mid horumarkaba ka soo horjeeda dee ma suurtagal aha inay horumarto tusaale waxaan idiin siiyey thaqaafa alhinduusiya bay yidhaahdeen haddii dhowr sano qura bay yidhaahdeen jiirka la sii daayo ayaa ugu filan wuxuu bini aadamku dhulka ku dul beero oo dhan inuu cuno dhowr sano qura bay yidhaahdeen waayo wax dhalitaankiisuna badan yahay kobiciisuna dheereeyo fasaadintiisuna tiro badantay idan waxay xadaaradda hinduuska oo dhan ceebba waxa ugu filan bay yidhahdeen inay tiri jiirka yaan la dili ummadda jiirka rabaysata xadaaradeedu way baaba'aysaa bay leeyihin matalan xadaaradii reer galbeedka waagii hore waxyaabaha u diiday inay socoto waxaa ka mid ahaa raahibnimo waxa la yidhahday rumaysanaaya oo ah inaan ninku guursanin bale inuu noloshoo dhan ka zaahido in la buuragaleeyo waxyaabahay reer galbeedka raggooda yacnii diinta ugu sarreeya sita ay isugu faani jireen waxaa ka mid ah ninkaa hebel dembiga fooldhaqa la yidhaahdo 50 sannadood muu gelin fooldhaqaa dembi laga dhigay inuu qofku wejigiisa biyo mariyo markaasaa lagu leeyahy sheekh hebel dembiga fooldhaqa la yidhaahdo 50 sannadood ma gelin qiyaas adigu qofkaan 50 sannadood fooldhaqani goormu horumaraya waxaan leenahay raahibnimadu waxa u yara eeg baad moodaa noocaynu suufinimada ku sheegnay soomaalidu ay leedahay raamahan iyo waxaan lala baxaa waa iska noocaasoo lagu yaro dayday inuu qofku naagta ka dheeraado carruurta ka dheeraado waxqabadka ka dheeraado kayn cidlaa dego tusbax weyn qaato dabeetana yidhaha waxbaan xaadiriyaa ama waan wardiyaa waa isla taa reer galbeeduna dembiga aan gelaynin yacni fooldhaqa 50 sano waxaan leenahay waxa loo yaqaana thaqaafadu haddii dee suufinimo ay tahay suufinimo waa wax ka hor jeeda thaqaafada waa waxaan suurtagal ahayn taqadum madani haddii la yidhaha dadka nin waliba qol yar ha galo ha ka wardiyo dee noloshii waa inay burburto ama suurtagal ah inay hore u socoto waxaan leenahay waxa u dhiganta tii reer galbeedku waagaasi ay haysteen thaqaafadu markaasi waa inay noqotaa baynu nidhi thaqaafo u cuntanta inay nolosha bini aadamku horu marto su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay
ma tahay ta islaamigii mid taa ogol waxaan leenahay thaqaafada islaamigii waxay ku salaysantahay cala altawxiid والعدالة الاجتماعية والشورى والمساواة والأخوة وتزكية نفس يعني أصول بي كسر يسنتي ثقافة إسلامية وأهرية التوحيد أما كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو الرئيس وعبادة له ولقاب نفط الله تربية والنظام نولاد له ومبدأ أولا سياسي وحشورا الله إلى هذا وكسل يسيي إيا عدالة إن لهله والنولال بين مركا أوران كرنا ثقافة إسلامي قاي وقاب برتقف كبني آدم كاي سيدو الله أولا نقم لها إيا النولها كلا سيدو أولا نقم لها أما بني آدم هالنقض أما حيوان هالنقضين نولها كلا سيدو أولا نقم لها إيا إلهي سبحانه وتعالى سيدو أولا نقم لها وحين أوران كرنا وثقافة ضقورة أصور تقلقة إنay abuurto xadaarad insaaniya xadaarad bini aadamtinimada ku salaysan waxa laaliya waxa ceeba ah ay reer galbeed ka qaylinayaan ay leeyihiin taayaday duminayaan teer kuma jirto nimanka qaylinaya le way dumaysaa waa niman xataa qaarkood ay mulxidiin ama diimahaba ka soo horjeedaan مثلا ويل ديونارت ميا لا ninka Mareykan waa buugan weyna la yiraahdo qisatu al-hadara ninka qoray history of civilization waa 30 volume waa raga diinta ka dheer buu kamidi yani mar rumaysna diimaha dadka dheer haddana waa raga cabaadaya way burburaysaa waxyaabuhu ku cabaadaya leeday waa ku burburaysaana waa waxyaabo dhaqanka reer Yurub ka tirsan asaan ku jirin ka islaamiga bay leeyahay waxa leeyahay thaqafada islaamiga ee tawxiidka ku salaysan tawxiidku waa qofku inuu caabudo ilaahay kaligi waxa kale oo dhan inuu xor ka noqdo bini aadam iyo dhagax iyo malaa'ig iyo cid dooraba ha noqdo qofka muslimka waa inuu xor ka noqdo ilaahay oo qurana uu noqdo ka qura la caabudayo haddii caqiidadaasi ay lunto bini aadamku wuu luba xadaarada dunida maanta taala u fiirso waxa aragtaan waxyaabo badan oo dunida maanta la yiraahdo waa al-ajaa'ib sab'a todobada shay dunidu ka weerartay yani ka wareertay saana u dhisayna maqaabkayay laakiin hadaa daristo wixii ka dambeeyay waa naci ahraamtan masar waxay sheegayaan maxay ummad ilbaxnimo lahayd oo dhistay dhismaha aragteena inta laaleen ee qaabkan u salaysan oo meydkeedii dhex dhigatay oo intay daawooyin marisay aanu isba bedelayninba sidiisii isagoo ah wali u yaaliin laakiin su'aasha isweydiinta le waxay tahay dhismahan fikradii ka dambaysay maxay ahayd faraacinadu waxay sheeganaysaa inay ilaahiyiin dabeetana ilaaha xabaal cuntantaa loo sameeyo baa layidhi ahraamtu waa xabaalihii ilaahiyada yani bashar lamida unbay ilaah ka dhigeen dabeetana dalku wuxuu aqoon iyo xoolo lahaa oo dhan waxa la isugu geeyey xabaal ilaah deeqda sidii loo sameyn lahaa waxa meesha taalaad garan karta ummaddu markay caqiidada tawxiidka la yiraahdo ka tagto sida ay u lunto maanta taaifa koox baa ka jirta dunida nin bay u rumaysay inuu ilaahu yahay dadka diinta haysto oo dhami waxay sanadkoo dhan ku maqayiin sanadkiiba mar baa la miisaamaa ninka miisaankiisa in leego dahaba uu xaq u leeyahay in la siiyo dadka diinta rumaysan oo dhami waxay ku maqayiin sidii dahabkii loo soo ururin lahaa ninka kana dhow lagu miisaami lahaa la siin lahaa yani waa waxa ay keentay khuraafada dadka kana ay rumeeyeen waa madhar min madahir shirk maxay macnaheedu tahay ummad dhan oo sacaabuda matala indiya waa aragtayna ummad dhan oo sac ka dambaysa oo suuqa ku xaarayo oo garoomada dayuurada marayo oo dayuuradu aanay fadhiisan intuu sacu garoonka joogo oo waxaan oo dhamin taa macnaheedu maaha in ummad dhan looga dhigay adooma hal saca mooyaane waa waxyaabo ay keensatay caqiidatu shirk inay dadku ilaahay ka weecdaan hal sac ayaa ummad dhami waxay xoog iyo xoolo lahayd ku bixisay
waxaan leenahay thaqaafada islaamiga waa mid tawxiid ku salaysan maxay tahay qof bini aadami dhagaxu isagu qoray markuu caabudayo ama ha yidhaahdo ciisuu ahaa ama kanbuu ahaa ama cidduu doonaha ku sheego waa maskax aad u liidata oo tilmaamaysa inuu dhagax ka qiimo badan yahay insaankaba hal dhagaxa ayaa ummad dhani caabudaysaa taa macnaheedu waxa weeyaan insaankii oo laga hoos mariyey waxaanu caabudayo horta waxa hubantiya qofku inuu ka hooseeyo wuxuu caabudayo insaan rumaysan yahay waxaanu caabudayaa wax ka weyn isaga inay yihiin marka insaanka dhagax caabuday ama sac caabuday ama ilaahay qayrkii caabuday waa insaan ka dambeeya nooca kale waxaan leenahay mushriknimadu amase xataa ilxaadku waa nooc ka mida untaa mulxidku muxuu rumaysan yihi waxaan leenahay wuxuunbuu caabudaa isna naftiisa hawa albashar wax kastoo naftiisu doonta inuu sameeyo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy ara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah afa anta takuunu calayhi wakiila war ka warran baa ilaahay leeyahy nebi maxamedow kii naftiisu waxay doontay ilaah ka dhigtay isna male wax mamnuuca iyo wax xaaraam iyo waxba waa waxay naftiisu doonta uunbuu samaynaya whatever it is waxay doontaba ha noqon idan shaygu macbuudku kani wataa waa maxay waa nafta tani waxay doonto waxaan leenahay thaqaafada insaaniga ahi waa ta ku dadaalaysa bini aadamkao dhammi inuu mid noqdo aanu ku kala soocmin midab aanu ku kala soocmin luqo aanu ku kala soocmin xoog iyo xoolo thaqaafaadka maanta dunida yaalla matalan waxaa looga qaylinaya waxaa ka mid a matalan dunida maanta waxaa la leeyahay 8 milyan oo qof baa gaajaysan 8 milyan oo qofba marka la isku daro sibaaqu tasallux 7 saacadood inta lagu bixiyo bareetanka hubka 7 saacadood oo keliya inta lagu bixiyo ayaa ku filan bay yidhaahdaan laakiin caqligu markuu fooraro dhanka kalu ka fakeraa waxay yidhaahdaan carruurtay dhalayaan ha yareeyaan oo nasliga hala taxdiidiyo yacni halkuu 7 saacadood haddii la joojiyo hubka ay ku baratamaan yurub iyo maraykan 7 saacadood oo qura haddii la joojiyo oo lagu bixiyo baa laleeyahay waxa bini aadam dunida kor taagan ee gaajaysan lama arkayo qof dambe oo gaajaysan laakiin waxay inoo waxyoonayaan inaynu dhalmada yarayno siday gaajadu u yaraato waa qadiya macruufa wuu arkaa laakiin ma rabo inuu saatan uga fakaro waxaan leenahay marka bini aadamku waxay dhahaan mushkilada maanta bini aadamka haysata ma aha bay yidhaahdaan suu'u tafkiir laakiin waa fasaadun fi lictiqaad bay yidhaahdeen waxaynu odhan karnaa tawxiidku waa waxa qura ee sheegaya in cawaatifta qofka bini aadamkaa la kobciyo yacni qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay ilaahay subxaana wa tacaala dabeetana sifaat buu ilaahay leeyahy waxa la faray qofka muslimkaana sifaadkaasi intii uu samayn karo inuu sameeyo yacni sifaadkaasi waxay sheegayaan kamaal qurux bay sheegayaan quruxdaas baa laga rabaa qofka muslimkii inuu yeesho tusaale ahaan ilaahay wuxuu isku tilmaamayaa ama sifooyinkiisa waxaa ka mid ah alcadl yacni waa sifo ammaan sheegayso ciddii aad caabudaysay aad ku sifaysay idan waxaa laga rabaa qofka taa aaminsan inuu isaga laftiisu ku sifooba alcadaala ilaahay waa kariim waa ku wax bixiya deeq badan qofka muslimkaa waxaa laga rabaa karamkii inuu isna la yimaado waa raxiim ilaahay subxaana wa tacaala qofka muslimkaa waxaa la rabaa naxariista ilaahay isku sifeeye in isna laga helo waxaynu leenahay ilaahay waxyaabuu inoo diidayaa ka hor jeeda insaannimada waxaa ka mida isla weyni iyo inaad naftaada kula weynaato alkibr waa mamnuuco waxaa la leeyahy ilaahay u sujuudo fooda dhulka u dhiga waxaynu odhan karnaa cibaadaadka iyo diinta islaamiga dhammaanteed waa waxyaabo qofka bini'aadamkaa bini'aadamtinimadiisa kobcinaya mawduucaas isaga waxaan jeclay si gaara inaan ugaga warramo innagoo isbarbar dhigayna xadaaradda islaamku uu rabo iyo ta reer galbeedku ay rabaan amase innagoo isbarbar dhigi doona maxay xadaaraddu tay waxa aan idiin soo sheego o dhan anigu ma rumaysnay inay xadaaradda tay laakiin fikrad ka gedisan baan rumaysnay waxaanse rumaysnay waxa aan sheegay oo dhammee taqadumka madanigaa la yidhaahdaa wasaa'il inay yihiin bini aadamka nolosha u fudaydiya
laakiin inaanay bini'aadamtinimada abuurin bini'aadamtinimadu waa wax ka gedisan intaan sheegnay oo dhan ummaddu iyadoo intaasoo dhan leh ayaan la odhan karin waa ummad xadaaro leh hitler intaaba waa hayay laakiin ma ahayn nidaamkii hitler nidaam xadaariya maraykanna intaasoo dhan wuu hayaa laakiin ma aha maraykan ummad mutaxadiriina iyagaa le ma nihin ka kaalay luqada siyaasiyiinta rijaalulcilmi waxay leeyihiin ma aha horumar bini aadamka u cuntamo waxa yurub yaallaaba laakiin rijaalu siyaasa iyagu luqatu takabur iyo rijaaluliqtisaadba afgaaro ka gedisan ka cilmigaaba iyagu ku hadla waayo iyagu dana dhaqaale iyo dana siyaasiyeed waxa la yidhaahdaa la xeeriyaa ee lama xeeriyo insaanka iyo waxa loo yaqaano qiimayntiisa ama horumarintiisa waa la halaagaa insaankaba hadday arrimo siyaasadeed soo galaan waxaynu leenahay marka thaqaafo kastoo aanta islaamiga ahayni nidaamka ku dhisani inuu burburo waa mid hubantiya ilaahay baana qur-aankiisa ku tilmaamaya laakiin ilaahay wuxuu kaloo inoo tilmaamaya inay suurtagal tahay technologyga ilaa xad inay gaadhi karaan ilaahay wuxuu leeyahay falamaa nasuu maa dukiruu bih fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay markay ilaabeen baa ilaahay yidhi wixii aan ku waaniyey ama wixii aan faray ayaan waxaan u furay baa ilaahay yidhi albaabada shay dhammaantiiba yacnii nolosha maadigaa iyo waxay uga baahnaayeen oo dhan way ka heleen fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay baa ilaahay yidhi xataa idaa farixuu bimaa uutuu ilaa iyaba ilaahay yidhi ay ka kibraan waxa la siiyey ay ku kibraan markay technology sare helaan markay dhaqaalo sare helaan markay dunida hoggaamiyaan ilaa ay ka kibraan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo ay dunida inta kale korka kaga kaajaan akhadnaahum baktatan fa idaa hum mublisuun baa ilaahay yidhi si fudud baan markaa u qabtaa baa ilaahay yidhi saawaaba iyagiyo uustay baa la yidhi subxaana wa tacaala kaam yaa caalamka nin madaxa soo taagay amase dawlad muddo yarna ku baaba'day xadaaradda dunidu hadda may bilaabmin in badan bay soo jirtay ilaahay wuxuu qur-aankiisa inoogu tilmaamaya afalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim war miyaanay dhulka soconin baa ilaahay yidhi oo aanay dadkani u fiirfiirsanin bal dadkii iyaga ka horreeyey cidhibtoodu waxay ahayd amasey ku dambeeyeen kaanuu aktara minhum wa ashadda quwa wa aataaran fi lard waxay ahaayeen baa ilaahay leeyahay qaar idinka xoog badan oo qaarkood yacni idinkaga raad badnaayeen noloshaba laakiin ilaahay wuxuu leeyahay famaa aghnaa canhum maa kaanuu yaksibuun falamaa jaa'athum rusuluhum bilbayinaati farixuu bimaa cindahum min alcilm ilaahay wuxuu yidhi rusushii markay u timi waxay ku farxeen agtooda wixii aqoon taallay bay qaateen oo ay ku kibreenoo way diideen wixii kalena waxaaqa bihi maa kaanuu bihi yastahziyuun baa ilaha yidhi waxay ku dheeldheelayeense ayuunbaa haleelay waxaynu leenahay haddii horumarku aan mar labaad ku noqdee horumarka maadiga ah haddii uu ku salaysan yahay qodobada shanta aynu soo sheegnay oo la yidhi shantaa cid kastoo qaadataaba way horu maraysaa dunida halkay doonto ha ka deganaato mabda ay doontee kalena ha rumaysnaatee isla markaa aan tilmaamnay shantiiba inuu islaamku inoogu yeedhay amase sida ugu dhammayska tiran leh uu inoogu baaqayo maxaa inoo diidaya inaynu horumarka ka raadcayno mabda'a bulshadeennu ay rumaysantahy midna ogsoonowo bulsha kuma horu marto mabda' loo soo waarido oo aan dhulkeeda raad ku lahayn yacni dadkani maalan reer galbeed qofka suuqa marayaa rumaysan dimuquraadiyad dabeetana waa lagu maamuli karaa dimuquraadiyad laakiin ninka suuqa marayaa hadduu shuucinimo rumaysan yahay ama mabda' kale rumaysan yahay suurtagal ma aha in dimuquraadiyad lagu dhaqo waxaan leenahay ummadeennu waxa qudha ay rumaysan tahay keeda aqoontan iyo keeda kale waa mabda' keliya
suurtagalna ku ah noloshatan haddii cimrigu dheeraado oo ilaahay dib isu keen tuso waxaan tijaabin doonaa inaynu ka raadino adillo taariikhda ma dhacday nadariyaadkan aan idinka warramayaa dunida ma ka dhaceeno wax hirgalay oo practical inta loo sameeyey horumar sameeyey ma tahay mise waa aragti cusub aynu leenahay hadda ha la tijaabiyo waxaan leenahay horaa loo tijaabiyey practicalina dunidoo dhan baa u aragtay waana lagu horumaray haddii aynu wakhti u hellana waynu darsi karnaa taariikhda dhabta ee islaamku uu leeyahay khaasatan dhanka u oomantiina xadaaradda maadiga ayay harku ka gaadhay ama dunida markuu hogaaminayay iyo caynku u ekaa waxaad mooddaa maanta taariikhda laynoo dhigo ama yurub ay jeceshay inay dadka u dhigtaa waa taariikh ninka cadi wuxuu sameeyey oo qura ah haddii dagaaladii dunida ka dhacay laga warramayo wixii yurub ka dhacun baa la yidhaahdaa waa dagaaladii dunida world war second world war first world war waxaa la sheego oo dhami waa wixii yurub ka dhacay haddii dunida kale laga warramana waxaa la yidhahdaa berigii hebel uu maraykanka soo helay iyo berigii uu hebel soo helay africa yani taariikhda laynooga dhigo dhami maraykan umad baa deganayd xadaaradna way lahay waa loo tegay dad meesha degane lama soo helin ee nimankii halkan jooguunbaa soo arkay meel kaloo dadegan yihinoo dabeetana way ku duuleenoo way qabsadeen laakiin waxaa loo dhigaa berigii colombus halkeer soo helay iyo afrika berigii lasoo helay afrika lama soo helina dad nool bay ahaayeen slave trade-kana maqasheenee la qaadeen ummad dhan oo muslima bay ahaayeen dad lagu qadaro 100 milyan ilaa 200 milyan oo muslim oo madow baa la qaaday boqolkiiba 10 baa ka gaadhay maraykan dad 180 milyan lagu qiyaasabaa ku geeriyooday rarkiiyo qura sida hargaha loo rari jiray xadaaradda laleeyahay ilbaxnimay soo gaadhsiisay waxay keentay 180 milyan oo qof inta la dilo 10 milyan hadhay in qasab lagaga bedelo magacyadii diintay rumaysnaayeen oo hadda qaar ka mid intay hambaabireen ay qoreen waa wada akhriday baan filaya buug la yidhaha The Roots wax kale ma sheegayeen nin unbaa wuxuu tilmaamayaa asalkiisii meeshu ka yimid iyo inuu nin muslimo inta laga xoog batay lasoo qafaalay oo maraykan la keenay uu ahaa laakiin waxa taariikhda laynoo darsoo dhamay taas weeyaan taariikhda layna baraa waxay tahay markaynu iskuullada ku jirnay wixii laynoo dhigay nebi maxamed baa yimi buu ahaa duni sanamayaaliin buu yimo sanamadii oo dhan wuu burburiyey dabeetana macnaa la fahmi karaa waxa weeyaan dee maanta sanam la burburiyaa ma jiro haddii maxamed uu burburiyo xadaaradanina way nacday sanamkii waa laga tegey marka taariikhda muslimka oo dhan laynooga warramayana cali iyo mucaawiya istilaa ka maqasheen waxa laaliya waxaynu taariikh ka dhiganoo dhamme waxay ahayd cali iyo mucaawiya istilay taariikh kaloo islaam leeyoo laydiin dhigay ama se laynoogu dhigay dugsina ma jiro laba nin oo muslima istilay mooyaane wax kaloo haba yaraatee islaam laynooga dhigay ma jirto ummadda aan iyadu garanayn taariikhdeediiba waxa yaab leh say u horumari karto ikhwatii fillah waxaan leeyahay nolosha waa ka maqantiina toosa oo tijaabiya inaad nolosha barataan asalaamu calaykum